بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة يقايالو هالكاد نقا داونيسان وإليش تي في ونقا براتين مالin walba waxaa inaan ku soo gudbino barnaamijka qubanaha axada barnaamijka qubanaha axada ee maanta qodobada aynu ku hayno waxaa kamid ah Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo u waramay Ilaash TV calanka xornimo doonka Oromia oo laga taagay deegaano badan oo kamid ah Oromia shacabka magaalada Kacalkacayo oo iska qaaday isbaaradii qabiilka Abwaan Khiyaar Xasan oo u waramay Ilaash TV jaaliyada Ogaadeniya ee Sacuudi Carabiya oo kulan isugu timid kaalintii suugaanta oo idinku hayno hees ay wadajir u qaadi doonaan koox Oromo iyo koox Soomaali iyo gabagabadii oo idinku soo bandhigi doono hees bandhig faneedkii jaaliyada Soomaalida Ogaadeniya Norway oo uu ka dhex muuqdo abwaanka weyn ee Bashiir Dhanaan inta waa qodobada madaxdiisii haddana ku soo dhawaada isagii oo fidsan داودياش قيمة قايها لو قدر كين كوبادي منطقة وحن كسو قاضنا إن قدومية وجان كعريمة دبته جبهة ودنيا وحرينة وقادينية مدن عبد الرحمن الشيخ مهدي مادي أو ورمي إليش تي في أيوه كجفا كجها ورمي يعني وربحين فاصن وكجها الله لنعيا كل دون هذين نقطة وقادينية حالة إثيوبيا هذا هي الصومالية بقى ورئيس قاسو أدياد ورئيس قيمة بدن إن نلا داوضة مدن عبد الرحمن ورين waxaan ugu warantaa xaalka Ethiopia tagtayba oraahdaadii caanka ahayd ee Ethiopia way maaragtay way gubanaysaa ama Ethiopia spoiling Al Jazeera siisay maalinka hadalka ku dhawaaqday laga bilaabo Ethiopia waxay galashay xaalad kacdoona oo aad iyo aad loola yaabay marka waxaan ugu warbixisaa hadalkaaga kadib wax ka dhacay Ethiopia maxay tahay kacdoonkan socda ee dhammaan qowmiyadii oo dhan hal mar wada saameeyay haday noqoto amxaaradii haday noqoto oromadii haday noqoto birshaguulkii Gambela iyo Ogaadeniya awal halgamaysa cadadada ee hadalka kadib qabsatay saad la socoto Ethiopia waxa la isugu keenay dadyow qowmiyada aad u badan qowmiyadaha ugu awoodda badan geeska Afrika qowmiyadahaas oo in muddo aba yani dulmi iyo cadaalad darro lagu hayay yani Ethiopia waxa kamid ah qowmiyada Soomaalida geeska Afrika qowmiyadaha ugu xog badan ah qowmiyada Oromada qowmiyada Amxaarada qowmiyada Sidaamada qowmiyada Afarta qowmiyada muxuu ahaa Benishangulka Gambelada iyo qowmiyada kale badan oo qowmiyada waaweyn ah geeska Afrika magac iyo isku marka qowmiyadahaas oo meesha lagu keenay kala duwan qaybo kamid ah waxay yani mar walba waxa lagu hayay xoog iyo cadaadis iyo caburintuna taariikhda waxay muujinaysaa mar walba bini aadanka waxa weeyaan markuu nabad ku wada joogo oo uu dimuqraadiyada cadaalad haysto waxa laga yaabaa inuu horumar gaaro laakiin mar haddii qolo ay damacdeen inta kale cadaadis xoog ku haysato waqti un bay socotaa badanana la socdo dawladaha Afrikaanku 20 sano aba siyaaba yani inay cadaalad darradaas way cadaalad darrada Afrika ka dhacda marka nin baa la ordo iska dhigan in xoog badan 20 sano kadib waxa wadankaas isbedel baa ka dhaca marka already waxa weeyaan Ethiopia way soo martay 1991 isbedel baa ka dhacay isbedelkaas la rajeynayay in waji cusub uu bilaabi doono muxuu ahaa isbedel cadaaladeed oday maamulka qabatay waxa weeyaan waxay aad uga hadleen muxuu ahaa inay dadka xuquuqdooda ogolaan doonaan ay ka tashigooda ogolaan doonaan dastuur aad u qurux badan oo inkastoo qaarkii aad u kharajaban yahay bay soo saareen oo ay kamid ahayd hadalba inay ayada ka tashan karto wixii oo idin laakiin wixii oo waxay noqotay sidii waagii Soviet Union oo kale waxa meesha ku qoran magaca kale bay sameeyeen marka wuxuu way soo tareeyeen marka waxa la soo gaaray meeshii qaabo qoysayga in dhaafi karin marka waagan la Ethiopia way karkaraysaa dhabbay ahayd haddana karkarkii hadda waxa weeye karkarkii way dhaaftay hadda
way foorarsatay hadda waxaa weeyaan way hadaamaysaa hadaantii kasii dhacaysay way dhaaftay meeshii hore boilinka way dhaaftay hadda waxaa weeyaan waa hadda waxay isu bedeshay maarata steam waxaa la yidhaahdo umi bay isu bedeshay hadda way kala kacday way kala tegaysaa marka xaaladda Ethiopia saasay ku sugan tahay guud ahaan gaar ahaan waxaa weeye saad la socoto waxaa weeye qoomiyadihii waaweynaa ee Ethiopia ee magaca ku lahaa ee mayalka muxuu ahaa ka mid ahayd Soomaalida Oromada ka mid ahayd Amxaarada ka mid ahayd oo saddexda qoomiyadooda ugu xoog badan ah iyo kuwa hadda haysta qoomiyadda afraada yani qoomiyad walba maanta waxay u istaagtay inay ismuujiso ayaheedii danteeda ka shaqeyso marka tii waxay keentay in xukunkii maamulkii muxuu ahaa wayaanaha la oran jiray ee muxuu ahaa laga tiro badnaa ee marba cid madaxa isu gelinayay inuu hadda dhaqaaqi la yahay oo farsamooyin cusub taba cusub dad isku laayay iyo adduunkiina maanta inuu fahmay waxa kale soo kordhay waxa weeye adduunkii baa fahmay taasna waxa weeyaan ayadana waa yani taageeradoodii ra'yiga laga qabay wax walba iska bedelay intaa waxaa sii dheer duruufta dabeecaddu ay keentay oo ama aliinida ama abaarahan badan oo Ethiopia boqolkiiba almost 50 ay gaajaysan yihiin oo maanta dhinaca u dhaqaaqeen ilaa yihiin markay isugu darsantay colaad gaajo cadaalad darro dil iyo muxuu ahaa xukun faasida marka Ethiopia maanta waxa weeyaan waxay ku taagan tahay waa waqtiga burbur lahayd runtiina waxaa yani khatar ku jira Ethiopia kaliya ma aha geeska Afrika wadilba khatar ku jira Djibouti baa khatar ku jirta Eritrea khatar ku jirta Suudaan baa khatar ku jirta Koonfurta Suudaan baa khatar ku jirta Kenya khatar ku jirta Soomaaliya khatar ku jirta waayo Ethiopia hadda isku dhex shiilanto waxa weeyaan 100 milyan oo qof oo kala dan ah kala ujeeda ah iska soo horjeeda isku wada diray waxaa laga yaabi doonaa inuu yani century-ga qarniga yani dhibkiga dhacay inuu meesha ka dhaco taa waxaa kaliya waxaa la noqon karaa in cadaalad timaado qolo walba aayaheeda loo ogolaado inay ka tashato marka guud ahaan xaaladda Ethiopia halkaasay maraysaa meeshaas Ethiopia maanta ku sugan tahay Ethiopia qarka waxay u saaran tahay inay burburto mudane cabdiraxmaan kacdoonkan maaragtay ka socda Ethiopia ee mudaharaadyada iyo xabaddu isgarab socdaan ee qowmiyaddii Oromadu badan ay xoreysatay qowmiyaddii Amxaaraduna sidaasi leeg waxaad warbixinaysaa hadda maaragtay xaalku siduu yahay haddadan yani xagee maraysaa Amxaaradu xagee maaragtay Oromadu xageesa maraysaa Soomaalida ogaadanya qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromadu halganka way ku cusub yihiin qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka ogaadanya ama Soomaali galbeed la oran jiray waxa weeyaan 20 ilaa 30 sano u dambeysay dagaal bay ku jireen marka waxay soo gaareen heelo u bislaadeen isbedel hadduu yimaado marka waxa weeyaan ayaga halgankooda waxaad moodaa inuu karkiisii hadda uu meel gaaray laakiin hadda waxa karkooda cusub yahay oo karkaraya waa Oromia iyo Amxaaro labadubana maanta waxay marayaan in hadda ciidanka Ethiopia uu gadooday inuu diidan yahay inuu tallaabo ka qaado waxay maraysaa in maamulkii Tigreega ay xukumay uu saddex qaybood u kala fadhiyo waxay maraysaa in qolihii militariga ay leeyihiin inqilaab baan samaynaynaa way dadkaan leynaynaa waxay maraysaa qolihii siyaasiyiintu inay leeyihiin war adduunkii baa nagu qaylinayo haddaan hadda inqilaab samaynaa ama dadka aan leyno waxay ogaadeen naga qabsaday baa meelaha kale naga qabsan doone balukaadiye adduunkiina wuxuu marayaa inuu leeyahay ilaa isbedel degdeg waa inuu yimaado marka xaaladdu waxay taagan tahay yani labada qowmiyadood in xooggii lagu muquunin lahaa uu hadda uu dispersion wax ingiriiska leeyahay ku dhacay oo kala baahay marka meelay talada maamulka muxuu ahaa xukuumadda dalka meel wax ka qabtay uu garan lahayaa maanta marka kulley waan ka hadli doonaa waxay hadda isku dayay inuu abuuro marka laakiin hadda waddanka Ethiopia wuxuu ku sugan yahay yani dad badan baan ka warhayna taa yani geeska Afrika ku nool laakiin Ethiopia waxay maraysaa marxalad yani Soomaaliya ay soo martay 1990 1990 marxaladii maraysay January maanta Ethiopia maraysaa xaqiiqadii mudane cabdiraxmaan markay xaalka Ethiopia sidaa yahay gurihii taageeri jiray ognahay ee reer galbeedka deeq-bixiyaasha ee qowmiyaddan tirada yar xukunka intaas sano ku hayay mowqifkay maanta taagan yihiin markay arkeen in shucuub intaasoo malaayiin ay kacdoonka wadaan dhammaan qowmiyadoo dhan isqabsadeen siyaasadda caalamku ee maanta Ethiopia waa sidee horta caadi ahaan dadyowga cadaalad darrada sameeya ilaa waxaa weeyaan ay arkaan cirka ay arkaan badanaa waxay u haystaan hadduu doontu dhinac ka soo gubanayso dhinac kale isku sirix inay fariistaan laakiin waxaa xaqiiqa ah maanta kolley waan ka hadli doonaa waxa weeye diblomaasiyad badan baan samaynay ama ha noqoto reer galbeedka ama ha noqoto wadamada bariga dhexe ama ha noqoto wadamada Afrika maanta waxay taagan tahay dhibkan kuu sheegaya Ethiopia inay burburayso in la yaqiinsaday in talooyin badan la siinay in la leeyahay war furfura war waxa la isugu yeero xooga kulli muxuu ahaa ama ha noqoto dowladda ha noqoto ama mucaarad ha noqoto
shucuub ha noqoto maamul goboleedyada ha noqoto in la wada hadashiye shucuubtaas oo sidii ku dhacday suuriya ama ku dhacday ciraaq ku dhacday ama libiya ka dhacdo kale si aynu dhicin war wada hadlo si cadaalada mushkilada idin dhex taalla xal ha looga gaaro iyo maanta adduunku ku hadaaqayaan laakiin waxaad moodaa inay ka dhagaadeegayaan laakiin aad bay saameyn ugu leedahay waxaana dareemaynaa in maaragta culays weyne ku hayso waana laisku raacsan yahay masalan waxaan xasuustaa 3 sano u dambeysay xiliyadan advocacy ugu cuslaa ku jiray oo meelo badan marayay sida laga dhageysanayay maanta sida laga dhageysanayay aad buu kala duwan yihiin waa la yaqiinsaday Ethiopia inay ku sidii hore ahaanayn in isbedel loo baahan yahay in dhammaan shucuubta dalka joogta ay waxay maraalli ka wada yihiin ama nabada ku wada noolaadana ma kala tagaan laakiin si guud in loo wada fariisto xal looga gaaro arrin waxa la isku oran jiray Ethiopia boqortooy imbaraadoriyadaas yani waqtigeedu dhamaado sida ugu burburtay marka adduunka waxa maanta uu ka qanacsan yahay laakiin mar horena waan sheegi jiray waan ka hadli jiray waxa weeyaan adduunku mar walba waxa mudnaanta kuwaad iskale shucuubta dhibku ku dhacay dulman ayaga ayahooda gacanta ku haysa ayaga laga rabaa inay wadcigooda bedelaan haday dibad ka sugaan in wadcigooda dibad looga bedelo isma bedelayo marka isbedel baa socda geeska Afrika isbedel baa ka socda amxaara way midowday qoomiyadii koonfureed way midoobeen oromo way midowday insha Allah Soomaalida hadda saanteeda way midoobaysaa degdeg way midoobaysaa waan hubnaa waxa weeyaan marka waxa soo bixi doona quwado waaweyn oo aan wada fadhiyo waxba kala qaadi karin marka kulli anoo hadda Soomaalina ahayna quwadaha geeska Afrika quwadaha ugu xog badan ma ka midna mudane Cabdiraxmaan waxaad ka qayb gashay shirka dhacay Brussels oo baarlamaanka Yurub oo looga hadlayo xuquuqda iyo xaaladda Ethiopia lagu qiimeynayay yani habdhaqanka dawladda Ethiopia iyo xadgudubyada ay u geysto qaybaha kala duwan ee dadka ay xoogga ku haysato shirka isaga maxaad maxay qabsoomay qadiyada ogaadeen ma looga hadlay bal noo faahfaahay shirka isaga shirkaasu kolley webka Yurub live-ka ayuu ku jiraa qofkii inuu doonay inuu sii baaro bisha 12keeda oo ka dhacay oo ka hadlayay shirku laba wajiba ahayn mid wuxuu ahaa urur xuquuqul insaana oo ka soo jeeda Soomaalida ogaadeen Oromiya iyo nin wariye ahaa oo marka shirkaas wuxuu ahaa shir ay ka soo qayb galeen ilaa 60 meeyo wuxuu ahaa xildhibaan oo baarlamaanka Yurub ah wuxuu ahaa shir yani wariyaal ka soo qayb galeen wuxuu ahaa shir muhiim ah oo daba socday waxaan la socday baarlamaanka Yurub 2015 marka shirka ka dhacay bisha 12keeda Khamiistii halka ka dhacay wuxuu ahaa shir nooc cusub oo ka duwan hadalka lagu hadlayay waxa meesha ka dhacay markhaatiyada ay soo dhigeen waxa markhaatiye soo dhigay erga ka socotay haweenka ogaadeenya iyo erga ka socotay haweenka Oromiya oo labaduba cadeen khaasatan haweenka ogaadeenya ergadii ka socotay urur Soomaali oo afro liiraado oo ururka xuquuqda shacabka Soomaalida ogaadeenya afkooda ku hadlayay waxay soo bandhigeen dhibaatada haweenka Soomaaliya loo geystay ee kufsiga leh ee xabsiga leh ee muxuu ahaa reerkoodii aqalkoodii xoolahoodii la gubay ee qaxooti laga dhigay iyo waxay u geysatay ee AIDS lagu beeray waxa soo idin marka wuxuu ahaa runtii shir aad u qiimo badan runtii shirkaas annaga waa ka qayb galnay waxaa kaloo garab socday anigu bishii isniintii baan muxuu ahaa halkan waxaan la kulmay ilaa 60 muxuu ahaa mudane oo baarlamaanka Yurub ka socda oo 60 qaybood mid walba muhiimad kale ayaan la kulannay waxaan kala hadlaynay qodobada kala ah يعني صار له صعود ذلك يعني أواربا ويقضي يعني سنة ذي هو دنبي شنت سنة أواربا كده عايز واحد دنبي مارش ذلك يعني بقول كي أخذت الحوالي هو إضافين وعلاقبتين وحاسار النقالة وحاسار علاقبتين وحوها يعني صنفل وحاسار وحوها جورفلي حبسي يدلي يبحوها أنت سروها هي مركا إني يعني كو أرنتا لبعض هذا نصير الله صعد تقولي نوع ما ديرت الناس إلهي ما أكسر نقدر لكن ديرت وكيل بيجتها مركا إنه إمرجنسي كجرو داعون كجرو in gurmadka muxuu ahaa Yurub reer galbeedku ay bixinayaan in la hubsado in qofka uu gaarayo reer guraaga inuu gaarayo guriga walba laadaya inuu gaarayo in loo kordhiyo lana gaarsiiyo la hubsado taamid ba ahayd oo dawladda Ethiopia lagu halay karin shacabkaas qodobka labaad aan ka hadlayna wuxuu ahaa waxaa jira wax la yiraahdo horumar lacag badan baa lagu bixiyaa Ethiopia horumarkaas nooca loo bixiyo nooc dadkeena anfacma anagu dadkeena 170 waa reer guuraa waa reer miyi weeye dhowr magaalo wax laga dhisaa markaas la horumar baa la gaarsiiyay waxaan u doodaynay reer miyiga iyaga sida xuquuqdooda u heli lahaayeen oo laga barakiciyay dhulkooda oo hay'ado shidaal iyo wax la mid ah dhulkooda la siinayo
daaqoodii la baabiinay ceelashoodii aan dayactir fiican lagu samaynayn aqoontooda aan yani maadaama ay reer guuraa yihiin aan iskuulo badan yani qolal baa meel cid laga dhisay iskuulla loo sameyn leeyahay marka in reer guuraaga nooca horumarka loo samaynayo in laga duwo kanada ka jira kaas wuxuu ahaa si guud qorshaha dheer ee Yurub ayadana waan kala hadlaynay oo xagga horumarka ah iyo sida horumarka aan loogu takrifalo dhinaca kale waxaan kala hadalnay jeel ogaadeen iyo dhibka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed iyo jeelal kale oo badan iyo si arrinta wax looga qaban lahaa waxaan kaloo ka hadalnay dhibaatada hadda abuurantay ee shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Oromada la dhex dhigay annaga saad la socoto maamulkeena hataa wuxuu rabaa ahaadee hataa kuma jira dowladda dhexe EPRDF kama tirsana marka waa la isugu tegay hadda sida muuqata yani dagaalka marka hore waa loo abuuray waa la adeegsaday oo iyadoo maadaama gumaysiga gudihiisa lagu duminaya iska dhaaftii kale xornimadoonka ah dhinaca kaleeto waxaa socda arrintu way ballaaran tahay wax weyn bay keenaysaa yani shacabka Soomaaliyeed geeska Afrika waxaan wada degnaa ilaa Djibouti marka waxa ka dhaca colaada laga abuuro Oromo iyo Soomaali waxay noqonaysaa colaad geeska Afrika taariikh dheer ku yeelata kuma ekaanayso muxuu ahaa inta hadda ogaadeen iyo muxuu Oromiya hadda inta ka jirta kuma ekaanayso Kenya galaysaa way labada shacab way degan yihiin Soomaaliya galaysaa way shacabka Soomaaliyeed ogaadeen waxa walaalahooda kala xagay fadhiyaan waad arkaysaa hadda waxa ka dhacay wixii halka ka dhacay Soomaaliya action box oo aad badan oo Oromo in Soomaaliya hadda waxa ka dhacayso waad aragtay ardayda jaamacadaha in hadda lagu Soomaaliya ee Oromiya gudaheeda ku jiraan soo masaafiriyaad sabab la isugu keenay waad aragtay in qaar laga masaafurinayo waqooyiga Soomaaliya koonfurta Soomaaliya marka arrintan waa arrin very complex arrin khatar weeye annaga iyo dadka Oromadana dad walaalaan nahay dad wada dhashay baan nahay diin dhaqan ehelnimo naga dhaxaysa laakiin dagaal ay colaad haday timaado waxa weeye si fudud dadka la isugu diri karaa marka waxaan leenahay waana u sheegnay adduunka aad baan uga hadalnay runtiina waxaan ku faraxsanahay adduunku inuu arrintaa dareemay hataa dowladda Mareykanka aad Itoobiya u taageertay inay canaan adag ka soo saartay waxaan leenahay yaan looga faa'iideysanin EPRDF ku jirtaanka lagu jiro dadka Soomaaliyeed ishuga waxa weeyaan ilaa dadka Soomaaliyeed 20 sano u dambeeyay waa lagu weerarayay xadadka waa lagu weerarayay si dowladnimo loo dilayay dhinaca kaleeto ardaalin ba dhinaca kale ayadana ka dhalato dhibaato u geysay dadka Oromada ayadana ma xaqirayno labada dhinacba yani dhinac kale aad moodaa in hadda hadal ku badan discourse-kan dhibaato geysanaya laakiin waa labada maleeshiya labada dhinacba dambiga way galeen labada shacab way laayeen Soomaalina waa la laayay muxuu ahaa Oromona waa la laayay marka isku si waa in loo cambaareeyo isku si loo wajaho annagu haddaan waan la bayaan ka soo saarnay shacabka walaaleen Oromada hal qof in laga dilo raali kama nihin saa oo kale raali kama noqonayo qof Soomaali in la dilo waayo annagu waxaan u taaganahay u jirnaa shacabka Soomaaliyeed dantiisa diirtaankiisa waxaa jira khilaaf xaqiiqi ah oo annaga Oromo naga dhaxaya oo ku saabsan degaan waana caadi adduunka dadka kastoo darisa khilaafyada noocaas oo ka dhaca laakiin laguma xalliyo in la isdilo in ethnic cleansing la isku sameeyo waxaa lagu xalliyaa si walaalnimo ah in deegaanada la yimaado si dimuqraadi ah lagu xalliyaa meeshii qolo ku badanta qolada kalena waxaa la siiyaa xuquuq maaragtay minority meeshii saasaa loo qaybsadaa laakiin qori iyo hebel baan ka riixi meel ka riixi ma dhacayso marka raalli kama nihin TPLF-na iyo EPRDF-na waxaa weeyaan arrintaas maxkamadda caalamiga ku saaraynaa waana gudbinay dacwadda dambiga ka dhacaya Oromona ma laha Soomaalina ma laha waxaa iskale maamulka Tigreega ee dhibaatadan aabaha iyo hooyada u ah marka laakiin waxaan u digaynaa oo leenahay waxgaradka Oromada waxgaradka Soomaalida qolada kale ee adeegsanin erayo isku diri kara shacabka waayo haddaad fidna kiciso meel ay aadaysa lama garanayo annagu marna raalli kama noqonayso waa Oromo walaalahan weeye aad baan uga ooyay qof la leeyahay jigjiga inta gaar laga saaray afka Soomaaliya ku hadlay walaalkeen oo Soomaali ah la leeyahay Oromo taa waxa wala musaafirnay sidoo kale aad baan uga xanuunsanayaa ardadayda jaamacadaha Oromo ay dhiganaysa in la soo musaafiriyo halka la keeno marka wayna dhibaysaa arrinta ayada aad baan uga xunnahay laakiin ururada siyaasiga waxgaradka aqoonyahanku waa in afkan isticmaal noqdo af dadka isu keeni kara walaalayn kara oo aan iska ilaalin af dadka isku diri kara taas waan adkeynaya aad iyo aadna waan ula soconnaa waana darsaynaa inta markaan ka gudbo shacabka Soomaaliyeed ogaadaya ku nool saad la socotaan dhibaatooyin badan baa ka abuuran waxa weeyaan maamul dhibaato badan u geystay baa jira khilaafaad baa dhex abuurmay dadkeena colaad badan baa kala dhex gashay xaaladaha Itoobiya ka jira degdeg bay isu bedelayaan waa xaqiiq way Itoobiya inay burburayso marka waxaa laga marmaana inaan bilowno saan wax u daweyn lahayn saan dadkayga isugu keeni lahayn kii waxa weeyaan xumaaday iyo kii fiicnaaday xaaladda hadda maanta abuuran waxay u baahan tahay Itoobiya isbedel baa ka dhacaya Soomaaliya inay midaysantaa laga marmaan weeye Soomaali qabiil ma aha ama mooyaan had deganaato ama Maisa had deganaato ama Dawanle had deganaato Xajibuut had deganaato ama had deganaato Warjaale ama Xarshin had deganaato ama Booq had deganaato ama Qabdahar had deganaato ama Dhagaxbuur had deganaato ama had deganaato Feerfeer
أما مستحيل هدقناته أما هدقناته محوها يد محوها هدقناته أما هدقناته صوفك دادك الصوماليات أما الدولة هدقناته وعدد ولا راوي وحال غير وي قبيل والبا الصومالية كنا حاجة لو كنا ليها محوها قبيل والبا وقاذي كنا حاجة لو كنا ليها وحي كون كل عيا مركا شعبك الصومالي أنك هدانا ولا بناي وحنقو باقينا من نمو وحنقو باقينا ولا نمو ما ملكا ما أنت ماشي هايستا صورة باكوي ماذا لبك أوبادا وحورت أوجيست شعبك الصومالي وقاذي أوجيستي حصي شيء وحنا لنا هاي الدنك وحويان وضعي على الصعداء ظروفته على الصعداء بدل الدنك رعي على الصعداء الدنك بيهم ميل متاجنا لا وين صعداء مركب الدب سوون نقطة دب سوون نقطة حالة إثيوبيا كنا عايز وضع ركتان ومدي ميدودا أيام ميل جاريسة وحنا أركي ما أنت وأنا خسرني سدا يعني قوميها كلا أي رنتي أي ليه ما كلا مركب باغ جودها المدة الصومالية نسوا جاذنينا وحنا لو سوا جاذنينا والله هي الصومالية حكومة شعب الصومالي هو واحد علينا سيقرب جوكسدين ولكن عبد الكريم سيقهر إيمادين مركي اللي يقول لك فارق يسوي من برلمان إلى شعب أيها لما حلينا ولا عليهم وي لكن وحلا حلينا مهم الله الصومالي أما قبل الجوجان أما مدحتويها فديان أما فديان محوها مالك إثيوبيا ويس بده شيء يعني وحاول واو اللي بيحجر جري ولا ذاك عبسطان محروم منكم جاريسان إثيوبيا ويس بده شيء جيس كأفريقيا ما تهدنا عليه حدودها كيف الصومالي نمجري سكين نمجري إثيوبيا نمجري وحاهوارا وحوين صدق لواتك سنة صوصة جيو بوليتيكال جيس كأفريقيا اسبدل وين بكوي معناه حد عندي مديسن أو ديارسن تيجي أركت دير وبعد كم بحيث مش دبل ما كسرت جيس كأفريقيا وقلال شيء أنا لقى أدونك وحوي سرعة وكسرة نقالها جيس كأفريقيا اسبدل يا أوارا إيمانية مركب وما به مديسن وأركت دير وبعد كم بحكرة مركب الشعب كصومالي ما ضحضنا حلنا فكر كرقيس واون هذا جايين إثيوبيا وكعبزين إثيوبيا ويتك تويس واحد مجدكتو isbedela ku talagala ummadda Soomaaliyeed idinkii baa saldhigwa idinkii baa dekadii xaabiyay jooga saad uga shaqeyn lahayd midnimada ummadda Soomaaliyeed ama ku hoos jiraan xukunka Soomaaliya ama ka baxsanaadaan waa laga marmaan Soomaaliyeed inay midoodo oo yeelato ujeedadii aragti taa milihin macnaha yani ma waqtiga hadda xaadirka uu soo dhamaanay xilliyada dagaalku soo dhamaan doonaan waayo maamulada cadaalad darrada ku dhisan kuwa Itoobiya kamid ah haday burburaan waxa weeyaan nabadgelyo iyo wanaag iyo horumar in loo joojiyo si imaan doonta marka u diyaar garooba isbedelada ka dhacay taas waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ogaadeen waxaan leeyahay maanta waxaad soo maraysaan marxalad aad soo gaadheen age wax la yiraahdo taariikhdu way isbedeshaa moments bajir taariikh waqtiyadii moments ka haba bilaabanaya waqtiga waa waqti muhiim ah weeye aqoon-yahankiina waxgaradkiina ururadiina siyaasiga ah muxuu ahaa culamaa diinkiina odayadu xilligan waxa weeyaan ujeedadeena waa inay noqoto midnimo qaranna waxay ku imaanaysaa kow horta number 1 dhibaatadii dhacday inaan aqoonsano labo inaan xal u helno saddex in maxaadanna aan isweydiino annagu haddaan waan lafnahay kula shiro waa qaban doonaa waan ugu baaqaynaa qaybo walba oo bulshadana kamid ah meel walba ha joogaan siday rabaan ahaadaan taariikhda waxa weeyaan waa waajib baa naga saaray inaan ugu baaqno nabadgelyo wada hadal muxuuha iyo muxuuha in xaalkan aan u diyaar garoobo Soomaaliya hadaan ma doonayno 1991 kii waxay nagu dhacay walaalaheen oo burburay annagoo soo qaxnay in lagu dulsay dawladda Itoobiya la yiraahdo oo marka ay timin muxuuha inaan hadana mar labaad ku noqono marka waa lagama maarmaan inaan diyaar garowno oo annagoo diyaarsan qalbiga ka diyaarsan maskaxda ka diyaarsan xoogga iyo cudurda ka diyaarsan isbedel in Itoobiya ka dhaco waxaa lagama maarmaana inaan loo hilin maamulada muxuuha joorfalka ku sameynay shucuubta yani maamulka TPLF laftiisa waa la hadlaynaa waxaan leenahay waa ummad baatiin geeska Afrika ku nool ma doonin annaga si Rwanda oo kale inay ku dhacdo ma doonin in shacabkiina la waarsado xilli waxaa la soo gaaray qasab tahay inaad dib isugu noqotaan inaad ku bedeshaan xoogga iyo muquuninta iyo waxaad raadinaysaan inaad ku bedeshaan wada hadal inaad ku bedeshaan muxuuha sulux inaad raadisaan xal siyaasi ah Itoobiya gacan kuma haysaan waa idin dhamaatay waqtigaadii waan idin sheegaynaa waxa weeyaan annagu shacab Afrikaana dhibaato loo geysma doonayno mar walba waxaan ku baaqaynaa inaad nabad iyo xal waara raadisaan oo dawladaha dariska aad nabad la gashaan jabadaha aad dhibaatada u geystaan la hadashaan shucuubta isku daraysaan joojisaan oo xal siyaasi aad soo dabaashaan taasaanan u gudbinay oo xisbiyadan la kulmaynay oo u gudbinay dawladaha yani annagu shacab haddaan shacab Soomaaliyeed maanta waxaan ku faraxsanahay meeshaan tagana dhibaatada nagu dhacdo waa loo yahay yani masakarka iyo crime-ka Soomaaliya laga galay qolo Itoobiya laga galay ma jiro walaa Oromo ha noqoto walaa Amxaar ha noqoto walaa qowmiyadaha kale
shacabka Soomaaliyeed waxa loo geystay genocide daba loo geystay 20 sano u dambeeyay waliba laga soo bilaabo 2007 ilaa hadda dib waxa loo geystay aan laga hadli kareynin marka waxa weeyaan waa in la ogaado waxa weeyaan dibka asaga ah waqtigiisa waxa weeyaan mar u dhali doona meel cid kuma dhacay meel walbana uu yaala marka insha Allah hadaan soo ururiyo waxa weeyaan xaaladda taas yani hadda maraysa intaas kaga baxay arrimaha Itoobiya waliyan kula kala kulmayna waan kala hadlay waxaan kala hadlay xagga sanfalka xagga siyaasadda waxaan kala hadlay xagga muxuu horumarintan kala hadlay waxaan kala hadlay xagga deegaanka waxaan kala hadlay dhibaatada shidaalka iyo waxaan lagu hayo tuubooyinka 300 kilomitir dhulkeena lagu baabiyo deegaanka laga in kala hadlay marka wuxuu ahaa shiruntii aad u mira dhalay oo aad u ballaaran buu haruntii waqti badan ku baxay oo weeraan 60 MB aan la kulan oo muxuu ahaa iyo ururka aan muxuu ahaa oo aan la kamid tahay la yiraahdo UNPO iyo ururka muxuu ahaa OPRO ururka xuquuqul insaanka Soomaalida ogaadeen isagana raadiyo intaas marka taasaan yar ugu tagnay waan runtii resultkiisa aad baan u qanacsanahay cabdiraxmaan saad ogtahayba Soomaaliya waxaa ka dhalatay dawlad cusub dawladdaas oo madaxweyne loogu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ahaa madaxweyne aad iyo aad looga hanweynaa doorashadana ku galay inuu dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed saddex diida ee caanka noqotay dalka dadka iyo danta dalka iyo dadka waxaa la filayay inuu noqon doono qofkii Soomaaliyeed soo dhaweyn lahaa sharaftii iyo haybadii Soomaaliyeed soo celin lahaa laakiin dhacdadii Cabdikariin Sheekh Muuse ku dhacday waxay soo muujisay ducfiga dawladda iyada ah waxayna muujisay in shacabkii Soomaaliyeed hankii weynaa ay qabeen uu been noqday marka see yani u aragtaa ka shakhsi ahaan aqoonyahan siyaasi geeska Afrika yaqaan falka ay ku kacday dawladda Soomaaliya sharciyan markaynu ka eegno oo ah yani sharciga qaabkay u mareen inaan Cabdikariin wax maxkamad iyo systemkii midna la saarin marka labaad in maaragtay cadawgiisa oo loo ogyahay inuu waxyeeleynayo loo geeyo oo maadaama aad u taqaan xag arrimaha sharciga marka maxaad ku sifayn lahayd arrinta ayada maxay tahay sababta ka dambeysay in dawladdan oo ummadan iyo haybadan huwan caasimadii qaranka muwaadin Soomaaliyeed xoogii dalka oo geesi wata intii la qabta cadow hadiyad saa loogu sii jiib ma noo fasiri kartaa horta arrintan wejiye badan bay leedahay marka sharciga laga hadlo waxaa jira sharci caalami ah kow charterka UN-ka iyo waxaa jira wax la yiraahdo human rights yani xeerka caalamka xuquuqul insaanka kow way jebisay waxaa jira xeerka xuquuqda ninka qaxootiga ah way jebisay siyaasiga waxaa jebisay Geneva Convention ee ku saabsan dadka shucuubta taas oo kale siyaasiga soo baxa waxay jebisay xeerka AU-da ee qofka muxuu ahaa political asylum weydiisay way jebisay waxay jebisay xeerka IGAD oo Soomaaliya hataa inkastoo ay saxiixin waxay jebisay dastuurka ummadda Soomaaliyeed bay jebisay marka xeer hadii laga hadlo wax laga hadli karo ma baaba waxay ahayd wax xeer walba caalamka way jebisay waxaa laakiin ka daranba maxaaba xeer keenayba qof Soomaali ah dawladda Soomaaliyeed oo nuurka ummadda Soomaaliyeed ah oo u taagan una dhalatay Soomaaliya waxay u dhalatay shanta Soomaaliyeed danahooda inay u taagnaato ilaaliso u dhimato 100,000 oo wiil oo Soomaaliya oo qabiil walba Soomaaliyeed ay ku asrin Soomaalida ogaadeen Soomaali galbeed markii waxay oranayaan ma ogaadeen 100,000 oo wiil oo Soomaaliya ku asrin oo qabiil walba Soomaaliya dhiigoodii dhacaankoodii yani in qof Soomaaliya madaxweyne Soomaaliya nin yar oo lulu firaadinay gobol jooga la garay laakiin madaxweyne Soomaaliya asagoo taagan in hoostiisa laga baxo runtii horta waa nasiib darro badan Soomaali ku dhacday anama oonayga kaliya ku dhacday anama way baynu ku dhacday waa wax laga mirigooda weey sharafteena bay meel uga dhacday dadnimadeena bay meel uga dhacday runtii wax laga mirigooda weey taa horta saasan u arkaa waxa weeyaan waxay ahayd ged waxaa ka sii darnaa haddana godad gobol madoona oo Soomaali dhiban ku hayn oo xaqooda raadsanayay oo weligood dib Soomaaliya u geysay weligeed oo aan la xabad ka mariyo Soomaali weligeed qof Soomaali u wadeen dawlad ka soo timaado waxaan bali u direysay haddana in loola socdo waa argagaxsan la yiraahdo waxay ahayd wax laga yaabay Soomaalinimadii haddana shaki in la geliyo qofka Soomaaliga ah anigu waxa weeye xamar baan ku koray dugsiga waxaan kaga baxay dhexe dugsiga sare kaga baxay jaamacadan kaga baxay macallin baan ka noqday waxaan ka noqday baaxis baan ka noqday coach baan ka noqday kooxda qaranka Soomaaliya ka noqday marka bari haddaan tagay haddana waa Ethiopia la dhiibay macnihiisa sababta noqday macnaha Soomaalinimadii baa la dhaawacay yani hooyaday waxay ku dhalatay Soomaali ku dhalatay Soomaali baan ahay aabay wuxuu ku dhashay Ugaadaniya walaalada qaar baa ku dhashay inta qaar baa Djibouti eheladeeda ku jira marka issue Soomaalinimada issue ma ahan afar nin oo muxaafil Soomaaliya fadhiday go'aan ka gaari karto
waa ummad Soomaaliyeed oo wada dhalatay oo qarana taana gef baa kaga dhacay intaas ilaa markaan ka gudboon xaaladda maanta waxay maraysaa marka runtii waxa weeyaan su'aasha taagan waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed runtii dawladda Soomaaliyeed oo qarana awood badan bay u baahantay burburka Soomaaliya annagu kuma farxayno madaxweyne Soomaaliya inaan cambaarayno ma doonayno inaan aflagaad u geysano ma doonayno annaga urur waxaan nahay dadka Soomaaliyeed oo dhisan ujeedada oo inala waxa weeye Soomaaliya inay bisho marka madaxweynaha Soomaaliya muqaddas buu noo yahay waana loo gafay gaf baana loo geystay mar ma aha laba ma aha laakiin saas way tahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed aad baan uga murugoonaynaa khilaafka idin hareereeyay cabdikariim arrintiisa horta waa dhib weyn baa ka dhacay khilaafka idin hareereeyay ama ha noqoto mid shisheeye dabada ka wada oo Itoobiya u horeyso ama ha noqoto mid maamul xumo keenaya ama ha noqoto mid wada tashi la'aan keenaya waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ay dawlad la'aan haddaad ku noqotaan waxaa iman doonta waqti la kala qaybsan lahaa xaqiiq weeye marka waxaan leenahay waxgaradka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed ilaa waa inay xal ka gaaraan khilaafyada jira kow waa inay xal ka gaaraan xaladaadka la sameeyay xagga ku saabsan Soomaalinimada ee ku saabsan ama ha noqoto jabadaha xorrimadoonka ah ama ha noqoto muwaadinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah cadowga loo dhiibay ama Soomaalinimada waana inay xal ka gaaraan khilaafka ka dhalanaya muxuu ahaa maamulka qaabka loo qaybsanayo ama gobol ha noqoto ama federaal ha noqoto waa inay xal ka gaaraan qaabka qofka mas'uulka dawladda noqonaya loo dhiibay xilka loo dhiibayo iyo waxa laga rabo waa inay xal ka gaaraan qaabka loo tashanayo marka runtii Soomaaliya waxa soo wajahday arrin aad marxalad adag annagu kuma dhiirigelinayna inay burburto waxaan leenahay dialogue wada tashi wada hadal hal la sameeyo hal hadduu dhacana ma in laga noqdo cayb maaha ha laga noqdo wixii khalaada dhacay wixii la sixi kara hal dhaco laakiin muhiimadda ayadana sideeda muhiim waxa weeye hal la ilaaliyo qaranka Soomaaliyeed midnimo ummadda Soomaaliyeed hal la ilaaliyo dad badan baa idinku seexan idinku soo toosaya cadowgiina uu aad buu idinku wiirsanayaa waxa weeyaan Soomaaliya talada waxaan ku leenahay annagu waxa weeye raalli kama nihisa wax u socdaan talaabo badan baana ka wadnaa mana daynayno ummadda Soomaaliyeed inaan hanuunino inaan u sheegno dhibaatada ku soo socota in xaaladooda aan ogaano waan ka dhalanay waan la dhalanay waan ka guursanay waan isku wada dhex jirnaa walaalahan weeye ama ha joogaan Hargeysa ama Djibouti ha joogaan ama Boosaaso ha joogaan iyo Garowe ama ha joogaan muxuu ahaa Cadaada ha joogaan ama ha joogaan Beledweyne ama ha joogaan Jowhar ama ha joogaan Muqdisho ama ha joogaan Baraawo ama ha joogaan muxuu ahaa Baydhabo iyo muxuu ahaa iyo Kismaayo waxa weeyaan rag ficiltamay rag iskama celiyo ficiltanka joojiya wada hadla waxyaabaha siyaasiga waxaa jira dhibaatooyin dhabaa jira oo ay ka dhalanayso dad la xaqirayo idinkoon ismaqlayn xukun buroorsi iyo xiliftan meelo shisheeya oo laydinka soo gelaya oo Itoobiya ugu horeyso marka anigu ummadda Soomaaliya waxaan leenahay dib isugu noqda laakiin waxaa lagama maarmaan ah wax walba oo xasal waa Soomaalinimadu haddii qayb Soomaaliyeed wax loo dhimo kuwa kalena ma wada jirayso hadda waxaa laga hadlaya Somaliland iyo muxuu ahaa iyo sidii jumhuriyadda Soomaaliya la soo celin lahaa maxay Somaliland ku soo noqonaysaa kuwii kale idin dhashay waa tadgumaysiga u dhiibaysaane maxay idinku falaysaa su'aal isla weydiinayo wey marka waxa weeyaan boogaha jira hal la dhayo waxa weeyaan waxaa jira guddi dib u heshiisiin qaran waxaad moodaa Somaliland dib u wada hadlay Soomaaliya si dib ah wada hadasho dhibaatooyin badan baa kala gaaray qaar cusubna waa la abuuraya kuwii hore kuwa cusub baa lagu daraya waxaa kulli hada joojiyaan leenahay marka walaalaheen Soomaaliyeed anagu ma habaarayno ma lihin madaxweynahana anagu ma lihin dhac ma lihin ma oranayno laakiin waxaan leenahay taladu way ka khaldan tahay madaxweyne dib isugu noqo dadkaaga dib ugu noqo tashiga dib u celi laga soo bilaabo tuulada la tasho ilaa madaxtooyada la tasho dad yoo ku luminaya ee jahada dhaxda ka wareernaya ka noqo waxa weeyaan reero badan bay Soomaaliya ka kooban tahay qabaayil way kooban tahay qolo walba gogol fidi waayo dadkeenu waa dad qabiila weeye tabashooyin badan baa jira anagu waan ognahay cabashooyin badan baa jira cid walba isku dayna in maaragta agreementskeeda aad dhegaysato adigana waxa weeye ku talagal xukunkaaga wuxuu ku jiraa dadka ayaga markaad qalayso madaxweynenimadu maaha wax loo dhasho maaha waa jaga lagu siiyey weeye dadkii ku siiyey haddaadan qancin way kaa tegaysaa marka dib isugu noqon ku leenahay anagu waxa weeyaan wax walbana ultimate dembigaada yeelanaya haddii Soomaaliya dowladda burburtada dembigeeda yeelanaya waxyaabaha muwaadinka Soomaaliya ku dhaca dembigeeda yeelanaya qof kastoo kale ha sameeyo marka accountable adaa u noqonaya marka ciddii haddaadan wax ka ogeyna dadkii ka ogaa accountable ka dhig haddaad adigu ahaydna waxa weeye inaad khaladkaaga qirato ka noqoto dhib baa lahaa adduunku qof bini'aadam kuu khaldama taasaan kaga baxaya arrimaha Soomaaliya salaamu calaykum waa ka baxa qodobkaas
waxa weeye waxaa jirta in maaragtay arrintii qalbi dhagax markii baarlamaanku dhageysigii koowaad ka hor uu guddi u saaray guddiga iyaga waxay qabsadeen 10 Oktoobar inay soo saarayaan natiijadii baaritaan ay sameeyeen guddigaas iyaga 10kii bisha waa la dhaafay caawa waa 14 maxaa natiijo ka soo baxday guddigii يعني maxaa 10kii waa la soo dhaafay maxaa la sugayaa maxaad filaysaa inay la soo bixi karaan dad badan ayaa waxay leeyihiin baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo ra'iisul wasaaraha intuba gacan bay ku jiraan shisheeye gacanta qoraalkeedii bay awal akhriyeen baarlamaankuna warqadii uu akhrin doonaa waqtigan waxaan ay qabsanayna waa dejin dadka lagu dejinayay leeyihiin marka bal adigu fikirkaagu muxuu yahay arinta mudan Cabdikariin Sheekh Muuse waxay tas u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed hadday fududaystaan baarlamaanka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed marka hore ka geysatay ha ogaadaan inay dhaawacayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed consequences-keeduna uu noqon doono akhirkeeda Soomaaliya burburiye taas horta ha ku tala galaan mana kaftamay arinta ayada ma shacabka Soomaaliyeed waa dad wada dhashay weeye waa dad dhiig dhalasho iyo dhul ka dhaxeeya weeye haddii lagu joorfaro qayb kamid ah ayaga waxay keenaysaa in midnimadii ummadda Soomaaliyeed dhaawacmayso marka horta baarlamaanka waan sheegaynaa ama dib ha u dhigaan ama kor ha u qaadaan arinta Cabdi Dhagax Cabdikariin Sheekh Muuse arin fudud ma aha arin la iloobayna ma aha waa inay xal siyaasi ah oo dadka ku qancaan waa inay helaan weeye qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ayaa la dhaawacay oo Soomaalida ogaadeen la yiraahdo Soomaaliyeed la yiraahdo waxa weeyaan qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed baan nahay ummadda Soomaaliyeed dhul bay wada leedahay way wada degtaa waa reero weeye ishuga qalbi dhagax ishu fudaanaya ma marka waxaan leenahay ama gabre qoraal soo diyaar la akhriyo wax kala haliya kuma baxayso midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa miiska saaran go'aanka qalbi dhagax laga gaaro dawladda Soomaaliyeed ha ogaato ee fudaysan baarlamaanka Soomaaliyeed ogaato mudane Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed mudane muxuu ahaa mudane senadka gudoomiyaha senadka labadiinu xil gooni ah idin saaran waxa weeyaan baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed asaga custodianka asaga ilaaliyaha يعني من لماذا شرعي حقوق أمد الصوماليين هدي أرنت قلب دقح أما مدن عبدكريم شيخ موسى أي ما خلد مرته وحد عواق ما يسا من لماذا أمد الصوماليين وعين كيل دون تا consequences قرن لماذا أمد الصوماليين كل يبغون يسوق قاعد دون بركة يلا فوضى يسمى لنا أما دي والله دقوا أما تمام على قدقوا أما بريه على قدقوا إيشو لا فوضى سنة معها ضدك قلب دقح وكسر جيده ضد كوقن عيا معها يعني بيان الآخرية معها نبى لوقفي umad baa loo gafay Soomaali baa loo gafay dad Soomaali matiin baa leeyahay Soomaali wada dhalatay way isdashay nin been uma sheegayo waa laga maarmaan marka baarlamaanku ha ogaado issue inuu yahay issue very serious oo aan laga hari doonin oo keeni doona in dagaaladu ay noqon doonaan kaliya inay noqon doonin wax ku ag yani ogaadeen kaliya ku ag inay noqon doonin dib weyn bay ka iman doonaan Cabdulqaadir marka marna yaan la fudaysan baarlamaanka maanta nasiibka ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed hor yaalla taas aan ugu sheegaynaa ishu fudud maaha ishu la isaga ciyaaro shakhsi la tuuray maaha waan soo daalnay annagu haddaan nahay Soomaalida ogaadaya in Ethiopia noo gacan geliyo waan soo daalnay in la kala tuuro waan soo daalnay mar walba dhawaad daalo dirita loo tagaa dirirtayda loo tagay si dhaban ku sheegay mana noqonayso wax ku jabad maaha waa qaran idil bay noqonaysaa qaran idil oo Soomaaliyeed oo loo gafay baan nahay marka qarankaas oo idil waxa weeyaan marka waxay ku yimaado ay go'aan ku gaaro marka ayaga ka mas'uul noqon doona taayada waan u sheegaynaa waxayna keeni doontaa annagu qaranka Soomaaliyeed waxa weey cidna naga maxsanayso waxay keeni doontaa in kursiga Soomaaliya isku qabsado waxay keeni doontaa in muxuu Soomaaliya ali weeyana kursi fogaana qodka ayada laakiin haddaan serious loo qaadan arinta ayada waxaan anigu hadda dawladda Soomaaliyeed go'aankeeda way gaadhay maanta waxba yani ma garan karo waxay qabanayso laakiin waxaan u sheegayaa mudane Jawaari iyo mudanaha muxuu ahaa senadka xukuma ishuga baarlamaanka gacantiina ku jira xildhibaanada Soomaaliyeed oo arrin hor yaalla maanta badbaadiya qaranka Soomaaliyeed badbaadiya midnimada ummadda Soomaaliyeed ummad baan nahay yar oo 25 milyan waxaan ugu hareeraysan 300 milyan oo dhulka geeska Afrika markii 5 loo qaybiyo labaan leenahay annagu badda ugu weyn baan leenahay shidaalkan leenahay wax walbaan leenahay haddii midnimada ummadda Soomaaliyeed dhaawacanta aan kala qaybsanno la kala tago waxaad ogaanaysaan qolo gooni u faa'iideysanaysa jira qaarna inay gumays ku abaadaan oo baabaan qaarna xorriyad ahaadaan ma suuroobaysa sababtoo waxa weeyaan lugtaada hadaad gacan iska jarto gacan kaliya wax kuma qaban karin yani 5 lugood baan nahay 5
labada gacmood iyo lugihii iyo madaxii baana Soomaaliya madaxii bay noo tahay labadii gacmood labadii adin waxa weyn waa saasoo kale wey lugihii wey marka haddaad kala dishaan qayb Soomaali kamid ah qashaan wadaado inaad qalantiin idinkuna mana soconayso arrinta ayada marka saas qaranka qodobada kaga baxaya waxaan soo gaarnay barnaamijkeena guntiisa iyo gabagabadiisa anagoo aad kaaga mahadinayna waqtigaaga qaaliga inaad na siiso oo maanta maaragtay waraysigan aad na siiso haddaan in yar kula kaftamo nin aqoon-yahana oo maalin ii warramayey yaa wuxuu maruu ka hadlay Cabdiraxmaan Mahdi wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Mahdi isagoo yar oo arday ah yaan aqaanay oo activist marka yar manoo sheegay maalinka activist u istaagtay dadkaaga inaad xaqooda soo dhiciso maxay tahay sababtu ku dhaliyay jabhadaha mise adiga wax kugu dhasho ma ahayd horta aabbahay jabhad baa hooyadana jabhad baa ahayd labaduba jabhad baa ahayd Allah u naxariisto way dhinteen markaan indhaha kala qaadayna kacaankii Soomaalida markaa dhashay baan indhaha ku kala qaaday marka muhiimadda activismka xorriyadda waxaan ahaa raggii ku mudaharaaday safaaradda Faransiiska madaxa yari jiray xorriyadda Djibouti waan u dagaalamay waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii committee support of French muxuu ahaa Cafaran Ciise markii magaca lagu oran jiray shacabka Djibouti raggii koox dhalinyaro oo arday oo u ahayd saaxiibada xoreynta Djibouti baan ka mid ahaa waxaan ka mid ahaa muxuu ahaa sidoo kale saaxiibada xoreynta South Africa oo aan mudaharad jiray safaaradda muxuu ahaa arrinta South Africa oo mudaharad jirnay kadib waxa weeyaan markaan anigu aan soo gaaray 14 aan soo kala qaaday prime waa markaan ka hadlay waa 68 kii way waxaan dhiganaynay dugsiga Baydhabo aan dhiganaynay boarding ma ku jiray waqti aan ka hadlayay dugsiga dhexe aan dhiganayay way markaan xamar imid dugsiga aan sare aan soo gaarayna waxaan ku biiray ururkii dhalinyarada waddanka Soomaali galbeed halkaasoo aan muxuu ahaa markaan joognay 74 aan niri okay Soomaali xor waxaan anagu dawladda xodda ka dhex samaynayna anagu lugayna halka qabdaarina lagu xiray oo ilaa muxuu ahaa muddo ku soo xirnay haddana markii dambe aan soo noqonnay oo aan halka haddana ururkii dhalinyarada waddanka Soomaali ka bilowday marka nolosheedu anigu waxaan aaminsanahay weligeyna aaminsanaa Soomaaliya ka hor inay hal ummad tahay midnimada ummadda Soomaaliya muqaddas bay tahay waan u dagaalamayaa waa asaas bay tahay waxaa kaloo asaasi ah in shucuubta hadba dulmada gumaysi ku jirta inaan u halgamo Soomaali kale inaan xoreeyo uma halgamayo waxaan soo halgamay Koonfur Afrika waxaan u halgamay Namibia waxaan u halgamay Polisario waxaan u halgamay ummado badan oo yani soo halgamay marka weligeyba waxaan aaminsanay Che Guevara an example iyo hanjirani waagan yara oo yani muxuu ahaa waa nin dhalinyaro hantiwadaaga adduunkan xoreynaya yiri Latin America ah marka yani waxaan ku soo koray anigu muxuu ahaa jawi kacaana jawi muxuu ahaa shucuubta yani xorriyad doona marka tiim baan hadda ilaa hadda weli wax kale ma aqaanaba taa ma aqaanaa aad baad u mahadsantahay barnaamijkeena guntiisa iyo gabagabadiisa ayaan soo gaarnay su'aalo yar waxaan kaa weydiinaynaa ururka UNBO ururka isaga ah ma nooga warran kartaa ujeedada macnaha ururka uu xambaarsan yahay ujeedooyinka loo aasaasay iyo waxyaabuhu qabto su'aasha kaleete ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay doorashadii Catalonia ururka UNBO miyay ka mid ahayd maxaanad kala socotaa arrinta iyada ee in maaragtay sida laga qaaday waxa weeyaan Catalonia Basque muxuu ahaa Scotland xildhibaanada u jooga muxuu ahaa baarlamaanka Yurub waan la kulmay aad bay maaragtay aan isugu xirannahay aad baan u dhowreynay natiijada ka soo baxaysa Catalonia runtii way taageeraan ummadaha yani xaqa ay ka tashiweel bay taageeraan marka test way runtii arrinta Catalonia arrinta Scotland ka dhacday waxa baas ka socda waxyaabaha ka socda muxuu ahaa Polisario marka runtii taas waa midaas weeye ka hata heer xildhibaanadooda baarlamaanada ku jira ayaan علاقات لأنها أنه هذا الشعب الصومالي الغادية ورندي قضية أن رجع برنامج يوروبا تكير قليا قارئة كمية كجرة أنت أمريكان كجدو وحاول أن أوروكا UNBO وأوروكا كوبان إلا فرتني سديد بديو هالظلمان هالجماعة حقائق كتشجعه وعكمية دولة حيوان بكمية وعكمية تيبت بكمية وعكمية أوغورس كوشينها يعني ضد مسلمين أوغورس كوشينها عددين بكمية وعكمية هم قليلا فيتنام وعكمية ساوث إيشيا بالوشستان وعكمية معها إن لاتين أمريكا مابوتشا قليلا هذا وعكمية أوروس معها إن ريبوها ناميبيا ساوث أفريقيا كجرا وعكمية قليلا لنا معها إن وقوي أفريقيا
waxaa ka mid a oromada ka mid a annaga ka mid a ilaa tibet ba ka mid a ilaa 48 ummadood oo qaar yurub ku jiraan ummadaha yurub ka mid a ayay isugu yimid waxay ka kooban yihiin laba qaybood qaybta ururada iyo qaybta xogeynta ah marka waxay xarun ku leedahay Brussels waxay gacan weyn ka geystaan ilaa ugu yaraan 30 muxuu ahaa aqoonyahan oo European ka shaqeeya waxay gacan ka siiyaan ururadaas oo sidii xaqooda iyo muxuu ahaa codkooda ay u bili lahaayeen oo advocacy uga sameyn lahaa baarlamaanka Yurub baarlamaanka Mareykanka dowladaha Yurub marka waa urur advocacy oo dadka xuquuqdooda u dagaalama weeye runtiina inta ururka uu ka mid noqday waxaan ka mid noqonay anagu 2000 muxuu ahaa 10kii runtii guulo waaweyn baan ka gaarnay oo advocacy-ga diblomaasiyadeena aad kor ugu kacday marka urur haddana xilligan caadiga waxaan leenahay berito iyo beri dambe waxaa guddiga maamulka xukuma UNPO bashiraya waana waan guddoomiye ku-xigeen u ahay laba goor waagii dhowna Scotland baa lagu doortay markii horena Brussels marka ilaa hadda sanadkii saddexaad baan hadda maraynaa marka yacni waxaana ka mid nahay ururka muxuu ahaa jooxa waxay ka mid tahay waanlaf waxay ka mid tahay ururada aad looga qadariyay UNPO waayo waxay u arkaan dad xuquuqdooda ay maqan tahay waana ururada kaalinta firfircoon ka qaata weeye runtii waxaana ururka waa urur membership weeye kharaj badan oo gabdhaha iyaga caanaha lisaya iyo muxuu ahaa barafka ku jira ay ku bixiyaan waxyaabaha yani advocacy-na lagu sameeyo ka mid tahay marka waa urur waxa weeyaan aad u qiimo badan saas oo kale weeye waxaan soo gaadhnay mudane cabdiraxmaan guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena annagoo rajaynayna mustaqbalka inaan waraysiyo badan isugu kulanno xaaladda Ogaadeniya ugu dambeyn maxaad ii lahayd shacabka Soomaalida Ogaadeniya iyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba maxaa fariinood hawadu marinaysaa hadalkii ugu dambeeyay kusoo dhow waxaan horta marka koowaad la hadlayaa dhalinyarada Ogaadeniya dhalinyarada Ogaadeniya saad la socotaan halkan adag bay soo galeen waxba iga taabtay uma sax dhalinyarada Ogaadeniya halkan adag bay soo galeen runtii guulo waaweynna way keeneen laakiin waa iyadana waxaad moodaa in kaalintii aan ka rabnay weli ay meeshii sida dhalinyarada oromada ayaga la midka ah in kaalintoodii weli ay soo banaanaanayso dhalinyarada Ogaadeniya aqoonyahan bay leeyihiin waxay leeyihiin xubno jabadeed bay leeyihiin xubno waxay leeyihiin jabad aan ka tirsanayn xubno wax dhaliila xubno la dhaliilo xubno halgamay leeyihiin waxaad dhalinyaradu waa inay midnimadooda soo ceshadaan waa inay midoobaan waa inay shanqaraha aan mamaqlayo meelaha la joojiyo xilligii maanta waxaa weeye aan israacin lahayn halgankan muddada dheer soo socday weeye taa horta guud ahaan midnimada dhalinyarada hal la xoojiyaan leeyahay kow odayada Soomaalida Ogaadeniya waxaan leeyahay waa iyadan dambe in muddo aba dhibaato badan baa laydinku sameeyey kuwii gudaha waan ogeyn kuwii dibaddana culays badan baa fuulay waa inay odayadayadu kaalintoodii ay sharafta ku lahaayeen qadiyadaha ummaddan ilaahay ay u istaagi jireen u istaagaan oo ay shirar qabtaan oo kulmaan oo dadkii mideeyaan aqoonyahanka Ogaadeniya waxaa la yidhi maamaha baa jirta waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa 20 jir muxuu ahaa doolo ama mudug jooga ilaahay uma cabgarin baa la yidhahdaa maanta aqoonyahanka Ogaadeniya shiishka ku saaran aqoonyahanka oromada waad aragteen ninku kuma mashquulsan hebel baa meel ka booday hebel baa saan sameeyeen hebel baan u dudsanahay 24 saac waxay ka hadleen shacabka oromada xuquuqdooda iyo dhibaatada lagu hayo marka idinkuna nimayahu soo jeesta muranka iyo waxa ku mashquulina midnimada ummadda ka shaqeeya qalinkiina qaata xuquuqda shacabkiina difaaca u istaaga shacabkiina guud ahaan ummadda Soomaaliya Ogaadeniya gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay wax kastoo waaga hore jirto faraaruq ah waxaan maraynaa loo baahan yahay midnimada hadda markii koowaadna ma intaan inta soo jeediyay ku mucaarada iyo ku muxaafida iyo ku gumaysi hataa ka hor la jirayba iyo ku gobol doon ahaaba waxaa la soo gaaray waqtigii aad xaaladda way isbedeshay meeshii hore maaha dib isugu noqdaan idin leeyahay oo si ummadda loo midayn lahaa xaqa aan xaqeena aan isku meel uga raadsan lahayn ummadooda ba xaqeeda gaadhay marka tafarada ma gaadho shacabka Soomaalida Ogaadeniya ku nool reer walba ahaado dhib kasta ha dareemo waxaa weeyaan qolo kale wax ma helayso haddii la kala qaybsado haddii la kala tago waxaa weeyaan qolo gooni ah wax ma helayso jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya meelahay ka dagaalanto meesha kaliya ee shacabkaas xuquuqdiisa laga ilaaliyo meelaha ay jabhaddu maaragtay laga yaabo ama inay ka fog yihiin ama xoogaa ay jiraan waa meelaha cadowga ka soo dhacaya marwalba marka
jabhadda hala xoojiyo halganka halagu soo biiro cid walba waan u furaynaa waxaa weeyaan ku talagala xoog markaad leedahay midaysan ayaad cid iska dhicin kartaa cadow iska celin kartaa lagugu xurmaynayaa laakiin haddaad baal marto waxaa weeyaan u fiirsa marka libaaxa iyo muxuu ahaa dhugaaga iyo yeydu markay xoolaha weerarayso waa inta saa ugu soo yaacda intii gooni u ordoon bay raacdaa inta kale way ka tagtaa marka halkii gooni u baxan bay dib u cuntaa marka qolanaya meel cidlaan ladinka helin dadweynihiina bartanka usoo fariista ummad midaysana noqono taasaan ku gaari karnaa etoobiya way isbedelaysaa etoobiya hadda dagaal uma baahna mar dambe waxaa weeyaan dagaal la-aan bay baaba'day way isbedelaysaa marka isbedelkaa dhacaya annagoo ummad soomaaliyada midaysan oo mowqif xooga leh ayaa laga maarmaanaynaa inaan nimaadno gogosheena cid walba waan u fidinaynaa gogosheena way fidsan tahay qof walba oo diyaar u ah midnimo iyo isafgarad waan u fidinaynaa gogoshe waan soo dhawaynaynaa laakiin waxaa asaas u ah hal shay ummadda soomaaliyeed xuquuqdeeda waa muqadas weeye akatashigeeda muqadas weeye waxaa weeyaan waa in taala aan isla garanno qaabkii lagu heli lahaa iyo qaabkii loo dooni lahaa meesheeda weye laakiin ummadda soomaalida waa mid weeye hal dhul bay leedahay hal degaan weye hal af hal diin hal dhul hal dan bay leedahay taasaan kuwada talagelaynaa min laga soo bilaabo muxuu ahaa maisa ilaa mooyaalana waan madaysannaha biidni illahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan maaragtay kaaga mahadinaynaa mudane halgame cabdiraxmaan mahdi waqtigaaga qaaliga ayaad caawina siisay insha allah waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inaad gaadho ogaadeenyo xor ah oo nabad ah oo barwaaqo ah iyo shantii soomaaliyeed oo walaalaha oo isjecel oo nabad ku nool maadaama ahayd riyadaadii ugu weyneyd halgan aad u dheernaad usoo gashay si arrimaha loo xaqiijin lahaa baada ilays dhammaan way kaaga mahad celinaysaa waqtigaaga qaaliga masha allah guul ogaadanya xoroodo soomaaliya israacdo ummadda soomaaliyeed ilaahay dhibka hayaa ka saaro qodobkeena labaad ee maanta qubanaha ilays waxaan kusoo qaadanaynaa kacdoonkii qowmiyadda oromiya ee ka socday dhammaan deegaanada oromiya oo aad iyo aad si xawaaraha ugu socda goobo badan oo ka mid a deegaanada oromiya waxaa si laga taagay calankii xornimadoonka ee oromiya waxaana magaalada shashamani ka dhacay dabaaldegyo aada u waaweyn oo lagu dabaaldegayo in qowmiyadda oromiya gacantii tigreega ee boqolaalka sano caburiska dilka iyo xasuuqa ku hayay ay ka xoroobaan qodobkan waxaan kula fakuri doonaa kacdoonka oromiya iyo meesha uu marayo bahda ilays waxay soo diyaarisay xogtan ee nala daawada
qiimaha qaayada qodobkeena saddexaad ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa shacabka magaalada Gaalkacyo oo ah shacab walaalo ah ee iswada dhalay kuna noolaa boqolaal sano si nabada deegaanka magaalada Gaalkacyo iyo hareeraheeda ayaa waayihii dambeeto waxaa cadaawad iyo kala qaybin dhex dhigay dad aragti gaaban oo siyaasiyiin ahayn kuwaasoo dadka u kala qaybiyay qaab qabiil ah magaaladana ku riday in maaragtay qaab paralyze camal in dadku socodkooda la xanimo xurriyadda dhaqaaqa ama ganacsiga uu xanimo dadkii cadaawad iyo nacayb la kala dhigo nasiib wanaag meesha ay ka fashilmeen oday dhaqameedyadii iyo hogaamadii siyaasadda oo dadka walaalaha mar walba isku leynayeen waxa arinta ayada ka gadooday oo yiri dib dambe uma aqbalayno qaybin iyo xasuuq lagu hayo shacabkeena iyo magaaladeena Gaalkacyo ardayda kuno dugsiyada hoose iyo sare iyo dhexe ka dhigata magaalada Gaalkacyo kuwaasoo si wada jir ah xagta ugu dhuftay khadkii cagaarna ee lagu kala qaybiyay magaalada si cod balaaran maaragtay ku taageeray in gabiyaanba la joojiyo kala qaybinta shacabka walaalaha arintan ayaa waxay noqotay arintii ugu dareenka badnayd toddobaadkii tagay baadiilays waxay idinka soo dirisay warbixin yar oo kooban ee nala daawada magaalada Gaalkacyo waayihii dambe lagu arkay jawi ka duwan marxaladihii lagu yaqaanay kadib markii shacabka ay fahmeen muhiimadda nabadda iyo isfahamka uu leeyahay isla markaana colaadda aysan dani ugu jirin labada shacab ayaa haddana waxaa saaki Gaalkacyo mar qura laga dareemay isu soo bax nabadeed oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo ardada wax ka baratay iskuulada ku yaala koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo kuwaasoo ku qeylinaya eriyo nabadeed oo ay ku dalbanayeen Gaalkacyo aysan colaad xamili karin loona baahan yahay in loo hiiliyo nabadda Gaalkacyo iyagoona socod dheer ku soo maray wadooyinka koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ardayda waxay garatay odayaasha garawaayeen nabadda ardayda raadin waysa dadka Soomaaliyeed waa garawaayeen ilaahay waxa ka barileyno ilaahay nabadda siiyo ilaahay waxa ka barileyno dibadbaxan ayaa waxa uu ka duunaa banaanbaxyadii ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo maadaama ay soo qaban qaabiyeen madal ay ku midoobeen dhalinta reer Gaalkacyo kuwaasoo maalmihii ugu dambeysay dhaxda u xirtay sidii Gaalkacyo la iskugu furi lahaa meeshana looga saari lahaa arinta khadka cagaaran sida ay sheegeen qaar ka mid ah dhalinta reer Gaalkacyo saaka waxaan qaadnay beentii oo la jidhay labada maamul dhexdeeda Gaalkacyo dhexdeeda beentii dhex oo la jidhay baan qaadnay maanta labadan ma oran karno Gaalkacyana la yiraahdaa maamul waa leenahay laakiin bulshadu waa hal bulsho waa bulshadii Gaalkacyo dhalinyaradu waa dhalinyaradii Gaalkacyo 75 waa dhalinyaro Soomaaliya haddii 35 finnawayaal iyo dad kale isugu jira ay naga awood badiyaan suurto gali ka dhaa waraan nabad u istaagna Soomaalida la yiraahdo Soomaali ha noolaad maanta waxa indhahay u jeedaanin xaqiiqdii waxa maanta muuqatay shacabka Gaalkacyo sida ay u doonayaan in nabadgelyada iyo xasiloonida walaalnimada iyo wada noolaanshaha sida doonayaan ayaa muuqatay waxaan fariin rabaa inaan maanta u faro kuwa colaadda ka shaqeynaya kuwa ummadda kala qaybinaya
kuwa ka shaqaynaya inaan la isu gudbin inaan ummadda wax kala qaadan inaan la isu gudbin ka shaqaynaya waxaan leenahay ogaada haddaad colaad ka shaqaysaan idinka ayaa ku dhimanaya tii aakhirana waa idin dambaysaa magaalo keliya oo noqotay laba gobol oo loo kala dhoofayo camal waxaa dhacday qofka labada u kala socda labada gidi inay u fududahay inuu xamar aado ama hargeysa u aado waa cuqdad raagtay waa isbaaro qalbiga ah waa qashinimo naga buuxda ha laga xoroobo arrinta iyada ah waxaan kugu bishaaraynayaa haddaad ku dhimataan waddada aad ku socotaan shuhadaa baad tihiin jannadaa gelaysaan insha allahu tacaala saas weeye duqa degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre oo ka hadlaya dibadbaxaasi nabadeed ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan sida ay u arkaan gaalkacyana mid bay noqonaysaa ma kala xirnaanayso lama arko cid laga yeeli doono maalin ay dhammaataba maalin bay dhammaanaysaa nalama kala celin karayo cidna laga yeeli maayo dadkaan inuu kala xirnaado danina kuma jirto ma nagu raacsantihiin dibadbaxan maanta ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayay xaaladda guud ee nabadgelyada gobolka mudug oo muddooyinkii dambe odayaasha dhaqanka ay wadeen dadaallo ay ku doonayaan inay ku xaliyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta gobolka mudug waxaana dibadbaxan maanta uu yahay dibadbixii ugu horreeyey ee dhallinyarada reer gaalkacyo ay ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin colaadaha inta badan ku soo laalaabtay miyiga gobolka mudug libin cajiib xaaji tv universal gaalkacyo dawadayaasha qiimaha ee qodobkeena afraad ee maanta waxaan idinku hanaynaa waraysi aan la yeelanay abwaan akhyaar xasan oo aan kaga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadday noqoto ogaadeenaya Soomaaliya Ethiopia iyo maaragtay xidhigii loo geystay halyeegii Soomaaliyeed ee Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waraysigan oo ay bahday la isla yeelatay waa kana nala daawada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة قايل وميل والبود نقد داونيسان هل كان وايليس تي في برتاي فيسبوك كل هذا لايف أو ما أنت مرتين ويا هي أبوان خيار حسن ورئيسنا يا أنا جو خليفة عبد علي أبوان خيار كسرو إليس تي في وأنا دوه مدن هذه أدمان دوه تي في لايف برت فيسبوك وحمرتين وقع أبوان خيار أو أبوان دالير أو قبياء دانتولا سوغان يهنا آدنا مارك تقول تخصصي لقنك صومالي دا ما أنت وحن كوريسن دونا إن لقنك صومالي دا وحن كلون كوريسن دونا إن مارك تي إن حرك صومالي وحن كقبل دعوين كجودن بيجيز كأفريقيا خاصة عبدالكريم إن شيخ موسى فالكي الولاك عاي دولة صومالي دا كوك عاي يا مارك تي ومد صومالي دا وحيس كبدلي مددي مادام يعني أنا ويانا تاريخ الأمة الصومالية تي هوري تمانت حديث كذا مركو هورين كسودو خيار إلى ستيفي لايف. وأنا مدن هذه أدمان دوه. وهورين داودياش وحنجعلان ليننا ماركت هردا إسبرتو وكما خيار حسن أنا ماركت إني رسكايشك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتوان سلام يا أمة الصومالية دردان. cid kastoo ay fiirsanaysa salaantaas ummadda Soomaaliyeed aan salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu khiyaar xasan waa aniga codkaaga kor u qaad mudan adoo raalli ah codkaagu aad buu hooseeyahay ma maqashaan miya si fiican kor ugu qaad arrintii faldambiyeedkii lagula kacay Cabdikariin Sheekh Muuse ka maaragtay xukuumaddii federaalka ee centraalka ee Soomaaliya madaxweynihii la doortay loo hanweynaa ee Soomaaliya oo dhan maaragtay ayaa maantay iyo prime ministerkii seed u aragtay yani in maaragtay xarunta intii la soo afduubay muwaadinka isaga caasimadii maadaama tay nin dhaqan yaqaan ah xeerka iyo dhaqanka iyo dhalashada ummadda Soomaaliyeed aad ugu takhasusay seed u aragtaa falka waxashnimada lagula kacay muwaadinka isaga falkaasi horta waa jariimo qaran
وحوية دنبي قرن لقى قلا أما أمد لقى قلا كي وفاش حما سومالي وعكم ما حد شو يقولي لما عرق واحد شو بانورن كرا كل كان صار كلها هاي وحويا في الصومالية مدحوينها يو وزير كرئيس الوزراء سو طلابة يقادين واتوان هوري الدنيا ودعن مدحوينه سرقال عيدن كحوق دلكيسا كميد oo soo maray intuu qabto bila maxkamad waa la arkay madax la haysta saraakiisha ciidankeeda iyagoo ku tumeeyeen dana kale iyo dana shay u adeegayaan laakiin lama arag madaxweyne ama prime minister nin soo maray ciidanka xoogga dalkooda Soomaaliya oo bilad geesi qaatay oo wax dambiye gelin haba yaraatay inta la qabto in wadanka loo safriyo waa xaajo koobaad oo dunida aan ka dhicin horay taariikhda laguma hayo waxaa kaloo xusid mudan oo ku xusuusinayaa halka ay ka joogaan shakhsiga militariga xoogga dalka ku biira wadamada qaarkood waxay sharciyeeyeen ciidanka xoogga dalkooda nin soo maray wadanka dila xataa in loo adeegsan karayo wadamada qaarkood sharciyeeyeen waan ognahay wadamo badan oo adduunka kamid ah ayaa arrintaas sharciyeeyay wadanka North Korea la yiraahdaa kamid ah wadamada sharciyeeyay ciidankooda xoogga nin soo maray wadanka dila inay loo adeegsan karaan waxaa kaloo xusid mudan oo ku xusuusinayaa inuu nin qaranka soo maray darajada uu leeyahay dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa kamid ahaa nin loo oran jiray Xasan Kayd Allah u naxariisto inuu dhintay baan jeclahay Xasan Kayd kacaanku xilligii wuxuu sharciyeeyay qofkii afgembi ku talaabsada waa dil toogashaa ayay kacaanku xilligaa sharciyeysteen isagoo kacaankii kamid ahaa afgembi buu isku dayay Allah u naxariisto afgembigu muusan suurto gelin waxaa ka badbaadiyay sharcigii la qortay ee ahaa hal la dilo qofkii afgembi isku daya wuxuu kaga badbaadiyay dawladda Ingiriiska kolka Ingiriiska Soomaaliland ay joogeen Ingiriisku ay gumaysan jireen ayuu wuxuu ka mid noqday dhalinyaradii daada yarayda ciidanka Ingiriiska markaas noqotay sidaa darteed Ingiriisku waxay dhaheen qof wadankanaga militarigiisa soo maray wax dili kara ma jiro waa Soomaali waad xiri kartiin laakiin ma dili kartaan baydan haddaad dishin Ingiriiska iyo Soomaaliya faraq kulubay saari doonaan waxa weeye adduunku ninka xoogga dalka soo maray iska daa muwaadin kale يعني وحو كجوانيه يعني وحصور تجلا معها واحد جذبة أو نوع عاصو خلاص نقول لك وحوي أرين وحلاقوت المامي كراي سنترين وخيانة قرن أو لقلتي أبي تقول فوش حماي وأنا تيجو الرئيس الدنيا كان على وأنا من أنا مالي ولي بيني الدب كده عدوني وحصل لي أخ مدنهم كحسوسين يا وري فرمات مركل الدورة نيجي أمة الصومالية إن فربضن وعدد هالجي كود شردي جودا وعدد جبني ماذا تشعل وحي كم مرين وحو كم مري إنه نوم موادني يهي جبني ودونا يهي كسر دون ذلك الصومالي جبيسي وحري كوتشرتو أرنتو عدك كهلي حسن شيخ وكجهلي تاسع يهي وحوي تستور كودن كوو خيامي شريتان كودن كوو كجلي دمبي تستور كودن كدمبي بو كجلي دين الإسلام كدمبي بو كجلي ومدى الصومالية ردين بو كجلي قلبية دي الصومالية موادنين الصومالية دون بقطنتي النقطة وحيورت كون أكسني بريجي غير جوراي هاي الدولة دلهاين بريجا waxay la jirtay xeer wax leeyaado waxay la jirtay magan deegaanka beeshaasi ay degantahay qofka soo gala cid kale kuma xad gudbi kareenin si kasto oo u dhacdo ma suurta gali jirin in maaragtay magantaas la qaato hadii la qaatana waxay ahaan jirtay in qabiilka maganta laga qaato ama deegaanka magantooda lagu dilay in soogaanyaanadu ayna u kala hadhin حتى waxaa dhacday in mararka qaar kood qabiilo Soomaalidu magantoodii la qaatay leer guurkooda aan joojino gabdhooda inaan guursano yaani halkaas ay berigi hore ka joogtay Soomaalidu laakiin waxa xusid mudan oo doonina ku xusuusiyo dadka Soomaalidu aan soo qaadano saddexdii madaxweyne ugu horeeyay kolkaan ku noqono dhinaca madaxda saddexdii madaxweyne ugu horeeyay waxaa jira mid walba talaabo aad umada Soomaaliyeed maskaxdooda raad ku reebto waxaa kamid ah talaabadaas waxaa kamid ahayd Allahu naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya ereyga laga xusuusto waxaa kamid ah isagoo madaxweynaha in la yidhi carruurtaadaan baabuur u gadno muwaadinimada u fiirso carruurtaadu waa carruur madaxweyne ciyaalka baabuur lagu geeyo wuxuu yidhahdaa cadda ciyaalka Soomaalidana baabuur uma wada gadi karo carruurtii Soomaalida oo lugeynaysan kuwa baabuur kuma soconayaan ha raacaan ciyaalkooda
taasi waxay dhaxal siisay in iyadoo la istilayo ugu qarankii burray Soomaaliyeed inuu aadan Cabdulla Cismaan beertiisa iska dhex fadhiyay oo dadkii istilayay beel walba iyo koox walba ay agmarayeen qof walba intuu salaan ka qaatay uu dhaafay waxa weeye qofku hadduu caadil yahay ilaahay adoomadiisuba way jecel yihiin laakiin hadduu khaa'in noqdo ilaahay adoomadiisuba way nacaan waxaa kaloo xusid mudan madaxweynihii ku xigay xilligii doorashada uu isu soo taagay Soomaaliya militarigeeda iyo macal booliskeeda kolka la isugu daro dhulkii xorriyadda qaatay Soomaaliya aanan odhanin dhulkii xorriyadda helay 6,000 oo bannaan 6,000 iyo 4,000 inta u dhaxaysa lagu tilmaamaa waxa la yidhi idinkuna doorashaad gasheen Etoobiyana way idinku soo duushay 100,000 oo askari bay xuduudaha soo dhigtay sidee doorasho ku galaysaan wuxuu yidhi gacanta midigtaana waa isku difaacaynaa bidixna waxbaan ku dooranaynaa doorashadu ereygu codka ku helay ereygaasuu ahaa mudane akhyaar abwaan waxaa jirta baryahan dad badan oo parliamentarian qaarkood yihiin qaarkoodna siyaasiyiin kuwa sheegtay yihiin oo Soomaaliya ku nool baryahan inay maaragtay Soomaalinimadii dib u qeexayaan oo leeyihiin qof hebel waa Soomaali qabiil hebel waa Soomaali qabiil hebelna Soomaali ma aha marka maadaama abwaan dhaqan tahay taariikhda Soomaalidana aad iyo aad u daristay bal macnaha Soomaaligu muxuu yahay yaa Soomaali ah yaansa Soomaali ahayn ma noo qeexi kartaa arrinta iyada horta hal baan ku sheegayaa Soomaaligu ma aha certificate la bixiyo shahaadana ma aha baasaboor ma aha jinsiyad la qaata ma aha waa u dhalasho wax loo dhasho weeye waa wax loo dhasho dadkaana markaad hadalkooda soo koobo waa dad aragti yar oo gumaysiga siduu rabo u shaqaynaya weeye laakiin wiilka jigjiga ku dhashay ka xamar ku dhashay Soomaalinimada abaal uguma qabo ka Hargeysa ku dhashay ka xamar ku dhashay Soomaalinimada abaal uguma qabo ka Gaarisa ku dhashay ka jigjiga ku dhashay Soomaalinimada abaal uguma qabo ka Jabuuti ku dhashay ka jigjiga jooga Soomaalinimada abaal uguma qabo waxaan ku xusuusinayaa mudane markaad Jabuuti dhexdeeda ka timaado labada qowmiyadood ugu badan qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Canfarta labada qowmiyadood baa ummadda degan ugu badan Canfarta markaad ka soo gudubto waxa loo oran xadkii Soomaalida aad gashay xad Jabuuti aad gashay lagu oranayo deegaankii Soomaalida aad gashay markaad diri dhabatooga dhaxmara aad joogto xaafadna waa Oromo xaafadna waa Soomaali marka waxa weeye North Korea iyo Waqooyi Korea Koonfur Korea la yiraahdo lama yiraahdo cidna Korea ma lama yiraahdo waxa weeye labada wadan iyagoo cola magaca Koreanka way wada wadaagaan laakiin waxa loogu magac daraa jihooyinka ay degan yihiin koonfur Soomaaliyada koonfureed baa la odhan karaa Soomaali galbeed baa la odhan karaa Soomaali waqooyi baa la odhan karaa laakiin ereyga Soomaaliga la yiraahdo waa wax loo dhasho walow dadka ay qaarkii ku qaybseen oo dadka qaarkii ay luqad ku tilmaamaan waxa Soomaaliga la yiraahdo dadka qaarkii luqad bay ku tilmaamaan laakiin inagu Soomaaliga wax raacayna intuuna gumaysigu imanin yaa Soomaaliya hayaansa Soomaaliya ahay ilaan xilliga gumaysigu uu qaybiyay Soomaaliya waa shalayto ka hor maxay ahayd yaa Soomaaliya ka hor yaansa Soomaaliya ahayn abwaan markaynu taa ka tagno baryahan waxaa soo baxay dad maaragtay siyaasiyiin sheeganaya qaarkood baarlamaanka Soomaaliyeed bay ku jiraan iyagoo gobolkii soo doortay aan u hadlaynin oo dadkay matalayeen xuquuqdoodii raadinaynin iyo mar walba afka kala furaan waxay leeyihiin Ethiopia ballaan weeye waa 90 milyan badeena aan siino hantideena aan siino iyo khayraadkeena nagama maaranto ciidankoodu waanu rabnaa waddankaana loogu hayo waana siyaasiyiin ninka xildhibaanka waddankiisii maaragtay gobolkii laga doortay kama hadlayo horumarkiisa kama hadlayo wanaagiisa kama hadlayo marka maxaa lagu macnayn karaa yani qofka noocaas ee ereyga leh ee qarankii ku jira cidajinta waddanka Soomaaliya laakiin dana wadamo shisheeye difaacaya horta waa nasiib darro waa ummadda Soomaaliyeed wax ku kaliya laakiin adduunka kale aan ku kaliya aan adduunkana nala qabin weey siyaasi waxaan ku xusuusinayaa wariye adduunka saaxiibada wadamada isugu saaxiibsan u fiirso مثلا إسرائيل يا مريكان والله ودنا صاحبه ونفي مال بوي سهران حدنا بقلال روح أو سردون كإسرائيل بعد شلش مريكان كوجرتا إيجو حجها مريكان
iyo istiraatiijiyadda Mareykanka iyo Mareykanku siduu wuxuu rabo inay wax ka ogaadaan raba ayaa mar walba la qabtaa oo sheelasha lagu xareeyaa waxa weeye inaad noqoto prime minister iyo inaad noqoto xildhibaan iyo inaad madaxweyne noqoto dadnimo ma aha waa qadar bay horta ku timaadaa qadar alle ku timaadaa waa wax Ilaahay ku qadaray inaad noqoto laakiin dadnimana ma aha aqlina ma aha marka waxa weeye qof isgadaya oo iska gadaya wadan kale laakiin waxa xusid mudan wadanka la yiraahdo Ethiopia waa wadanka qura iskuuladooda lagu dhigo dunida inta leeg Soomaaliya wadan Ethiopia waa dhul Ethiopia ama waa dhul Ethiopia ama waa dhul Ethiopia ka go'ay waxaan ku xusuusinayaa oo wax weligeed qof kasta oo Soomaali inuu xusuusnaado loo baahan yahay Haile Selassie qaramada midoobay hortooda wuxuu kaga dooday Soomaaliya qoomiyadda Soomaalida yiraahdo waa qoomiyadda Ethiopia kamida mana fahmi karto dawladnimo waa dad xoolo dhaqato oo cawaana yaan la goynina Ethiopia kamidina sida adduunka ku dhaafo taasi waa wax madaxweynihii ka tagay waa wax Ethiopiaanka oo dhan ay dhaxalsan yihiin waa wax iskuulada lagu dhigo waxaan ku xusuusinayaa madaxweynihii ka horeeyay Meles Zenawi isagoo Ethiopia kaga xukuman dil toogasha oo wadan kale jooga oo ka cararay wadankiisa ayaa markii xamar ay taangida Ethiopia galeen warqad tahniyada u diray Meles Zenawi waan ku tahniyadinayaa inaad Soomaaliya qabsatay oo xamar ay taangida dhex joogaan inta ka degtaad ka khudbadaysay adigoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia waan kugu mahadnaqayaa buu ku waxa weeye qadiyada waxa la yiraahdo dadka aaminsan iyagoo isnacab bay wada ilaashadaan oo hareeraha iska taagaan ما يفهمتي marka waxa weeye xildhibaanka hadda maanta jooga oo dhanaya Ethiopia dal iyo bad midna abaal uma qabtaba wayba haysataaba waxyaabo lagu qabto dalka Ethiopia inay ka talisa badaheedana iyada hadda Ethiopia sagaal markab ay soo gadato wax badan oo ay leedahay male Suudaan kama soo xiran karto Masar ma waxayn karto dhulka Soomaalida kali ee taayana maraakiibta loo soo gatay waxaan ku xusuusinayaa maamul goboleed kasta oo Soomaaliya laga cilaamiyay badana waa inuu xal lahaado shuruuda Ethiopia waa inuu meel xad kala lahaado labadaas shardi ay maamul goboleed waliba wataa oo fiirsa hadalkayga ma maqashaa si fiican ku malaatay ha marka waxa weeyaan Ethiopia isaga sidaa leh aaminsan abaal ahmaaro abaal Ethiopia ishima dhaafta leeyahay abaal Ethiopia ishima dhaafo hadda kuwa ilaahayna ka go'ay ka kufriyay shacabkoodana ka kufriyay muwaadiniintooda xabashida u dhiibaya ishi kaliya u noqonaya abaalkoodu ishi waa thank you waad mahadsantahay way ishi waxaan ahaynoo laga helaya male marka haddaynu taa ka tagno abwaane waxaa jirta Cabdikariim Sheekh Muuse markii la qabtay afduubay hadiyad loogu dhiibay Ethiopia isagoo la jir dilay oo dhaawac weyn soo gaaray xarkii ay sirdoonka niise ku xidheen waxa ka furfuray sirdoonka Ethiopia loo dhiibay isagoo meel walba daban tahay waxa weeye in waxa soo falo dhacay maxkamadii iyo garsoorkii Soomaaliya oo ahayd awoodii kala hagaysay dawladda Soomaaliya haday dawlad tahay kala hagi lahayd ahayd qof walba dambi gala muwaadin walba waa bari ilaa lagu cadeynayo dambi marka maxaan dhigi karnaa in garsoorkii maqan yahay oo una wax hadal ka dhihin dambiga weyn waxashkee dhacay khiyaanada qaran ah ninkii maaragtay khiyaanada qaran sameeyeen wali uu maaragtay wadankii joogo lagana yaabo 100 khiyaano kala qaran oo kale inuu soo wato horta maanta inuu joogo waa laga yaabaa sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed baa waa laaf duubay dadnimadii baa laga dilay ummadda Soomaaliyeed waa la khiyaameeyay madaxa laga dilay baa la yidhi madaxda ay gumaysiga Ethiopia mimiri gashadeen baalka la yiraahdo telefishinka qof baa intuu halkaa fadhiisto remote ku hagaa oo marba channelku doono u geystaa madaxda Soomaaliya waxa la oran karaa in fara badan waxay ku shaqeeyaan raaligelinta shisheeye ee dibadaha laakiin mala istiraatiijiyad ah ummadani siday u badbaadi lahayd iyo kalsooni inay ka raadiyaan shacabkooda farmaajo wuxuu qabaa Ethiopia inay ridi karto inay ridayso hadduu waxaysan wuxuu rabo
ay uu samayn waayo baarlamanka sirdoonka nabad sugidda boqolkiiba 80 waxaa la odhan karaa waa dad Ethiopia u shaqeeya taas waa markhaatimo doon weynu isla wada ognahay ma uusan joogeen baarlamanka hadday sharci ku shaqeynayaan ama baarlamanka adduunka yihiin oo kale one day farmaajo madaxweyne ma noqdeen baarlamanka hor imaa la odhan lahaa waxaad kiiskan ku samaysay qeex baa la odhan lahaa noo sheeg isla saacaddaana xilkaa laga qaadi lahaa waan ku sugay iyo ma ogeyn labadaa mid buu odhan lahaa labadabana nafta xilku ku waayi lahaa maxkamadna waa looga yeedhi lahaa isagoo dembiilaha oo katiinadaysan baa la geyn lahaa laakiin waxayna fahansanayn waxa dhib u keeni doona maaragtay ceebta iman doonta dalkooda iyo dadkooda in lagu socdo ayaynan aaminsanayn iyo lafahooda weliba waxaa kaloo mudana kugu dari farmaajo oo ninka arrintaa u sameeyaya waxaa laga yaabaa maanta siduu xilka ku waayi lahaa inay ka shaqaynayaan abwaan khiyaar saad og tahay يعني ereyga aad tiri baa maaragtay waxa ka marxaati kacaya in maaragtay abaal waxay ugu dhigeen Ethiopia yani Tigreega xukuumadda Tigreega waxay abaal ugu dhigtay faldambiyeedka iyo khiyaanada qaran ee dawladii khayre iyo farmaajo ku kaceen in isla markiiba maamul goboleedyadii oo dhan la abaabulo oo awoodii uu farmaajo haystay iyo tii uu khayre haystay labadiiba laga wareejiyo oo la dhaho maaragtay idinku qof doorta maxaad malaynaysaa abaalmarinta noocaas yani sababta ay Tigreegu ninkii wanaaga u sameeyay khiyaanada qaran u sameeyay wadanigii xoog dalka qabtay ee hadiyadu intuu jir dilay gacanta u siiyay maaragtay cadawgiisii uu ka difaacay Soomaaliya maxkamad la saarin oo meel la geenin in meeshii abaalmarin la siin lahaa ee maaragtay farmaajo khayre ay soo dhawaysan lahayn Tigreegu in isla markiiba maamul goboleedyada ay amraan oo gabra intuu horkaco u dhaw aynu isugu nimaadno meel hebla shir degdegana qabta isagana awood ka qaada horta dambiiluhu adduunka isku siin buu dambiilo uga yahay farmaajo dambigu Soomaaliya ka galay waxay arkaan dantooda fulinaya laakiin inuu dambiilo leeyahay shakhsi quality xun yahayna way arkayaan marka waxa weeye gumaysiga cidda u shaqeysa wayna dilaan waxayna weliba qoraan oo u badan mudane oo ku xusuusinaya taariikhda gumaysigu qofka ka soo horjeeda la dagaalama waxaa laga yaabaa inay taariikh wanaagsan ka qoraan laakiin gumaysigu ninka u shaqeeya weligood adduunka intay ku nool yihiin ma taageeraan waxaan kuu sheegayaa nimankii tartaarka la odhan jiray adduunyada sida xun u layn jiray ayaa berigii ay adduunyada xasuuqayeen baa magaalo ganjeel ahayd oo lagu wareejiyey dayr ayay meel ay ka galaan waayeen marka nin magaalada dadkii u dhashay ahaabaa wuxuu ku yidhi meel baa jirta haddaad riixdaan albaaba oo idiin furmaysa halkii buu yidhi halkan riixa halkii bay ka galeen magaaladii bay laayeen waxaanu manayn inay Baghdad yahayd baan filayaa markii magaaladii ay baabiiyeen baa nimankii mas'uuliyiinta tartaarka mid kamid wuxuu la laacay salaan wuxuu ku yidhi weligay jaajuus ma salaamin intuu gacanta ka laabtay isagii buuna dilay dadkii meedkaaba ku dhex daray waxa weeye waxaan ku xusuusinayaa Ingiriisku markuu Soomaaliya ku soo duulay dadkii la dagaalamay ee ka hortagay ninkii Cabdullaahi Xasan la oran jiray oo hogaamin jiray مثلا buugga ay Soomaalidu ka qortay in Cabdullaahi Xasan iyo kuwa Ingiriisku ka qoray waxa ka amaan iyo sharaf badan ku Ingiriisku ka qoray taariikhdiisii wax been kama sheegin waxayna wuxuu ahaa haliyay aan cabsi la gelin karin oo laaluus la gelin karin oo la handadi karin oo la khiyaami karin oo wax kasta hadii lagu sameeyo waxba laga qaadi karin sidaa darteed waxay u aqoonsadeen maaragtay inuu yahay qof nooc kala ah ilaahay hadda waxay raadiyaan qof DNA-diisii leh waad ogtahay lafiisii baa la raadiyaa lafiisii 100 milyan bay joogaan maanta in Cabdullaahi Xasan lafiis Ingiriisku ay helaan يعني عقدة يعيبوا من هذه وهو قسم يسنا إن لفيس لبارو دين ليس لبارو وهو قسم يسنا قفك اللي يقعدوا كريم وراد سنيا ضدك يجعل الشقين هي وحي كقرين حابا يراتي مال صومالي دونا كوي للشقين شري إنجليز كلا السعودي وحبا كانوا يقولين هالجمياش الصومالي ده سيدنا عبد الله حسن كوي كسور شري وحبا كمان نقارنه اللي تقالمي اللهم صل على زين الوجود عبد الله عيسى مركي وكدوده واشنطن ولا بني ادم بان حريه بان ربنا صدو من الصوماليه ايا لا سعودتي oo lahayd anagu talyaani ma rabnaa iyo gumaysi yaa yaqaan sodonkiin magacadoodii ma yaqaan hadda
lama yaqaano taariikhda eber ka dhigaysa waxa weeye jaajuusku intuu nool yahay baa la yaqaanaa laakiin markuu dhinto waa la waayaa wadanigu laakiin inta dunidu ay jirto taariikhdiisu wuu qoraadaa xawataako gabadh la odhan jiray baa la dilay ninka dilay soomaali buu ahaa nin soomaaliya dilay bay noogu joogtaa laakiin xawataako waa naqaanaa allahuma salli calaa zayni wujuud sheekh bashiir nin baa dilay soomaaliya iskuullada soomaaliya sheekh bashiir dugsiga maxaa sheekh bashiir baad maqlaysaa ninkii dilay ee cadowga u dirtay taariikhdu waxay gelisay eber bay gelisay marka waxa weeye waxaa soo hadha qofka xaqa aaminsan ee gobonnimada aaminsan ayaa soo hadha waxaan ku xusuusinayaa oo kale shayga xorriyadda la yidhahdo iyo gobonnimo u dirirka waa shayga quree gaaliya muslim ay ka midaysan yihiin adduunka gaalada iyo muslimku way ka midaysan yihiin xorriyadda diin waa lagu qaybsan yahay aragtiyo kaloo fara badan waa lagu qaybsan yahay laakiin gobonnimo doonnimadu iyo geesinimada iyo xaqudirinimadu waa waxaynu ka midaysannahay gaalo iyo muslim gaaladu gumaysiga way la dagaalantaa muslimiinta iimaanka qabtaayna iyagu wayba ka xag jiraan oo wayba ka sii maaragtay way ka fogyiin iyaga diintooda amraysa inay diidaan khaladka iyo gumaysiga abwaan waxa weeye baarlamaanka soomaaliya markay ka hadleen arrintii qalbi dhagax cabdikariin sheekh muuse waxaa loo saaray guddi gaar ah guddiga iyaga waqtigii loo qabtay waxay ahayd 10 Oktoobar waxa weeye 2 beri baa ka soo wareegtay wararka qaarkood waxay leeyihiin 14 maalinkay tahay yaa baarlamaanka lagu soo celinayaa natiijadii ay maaragtay ka soo saareen baaritaanadoodii guddiga baarlamaanka dad badan baa waxay leeyihiin baarlamaanku waa kuwa Itoobiya soo xulatay dadka la xulayna intooda badan waa dad bari Itoobiya waxayna u badantay inay yihiin dad la gatay oo yacni ama u shaqeeya camiilina inkastoo dad yar oo wadaniyiin ku jiraan marka dad badan baa waxay leeyihiin mar walba go'aankii khaladka ahaa unbaa khalad kaleeta noqonaya waxaana meesha ka cadaan doonta Soomaaliya inayna baarlamaan lahayn madaxweyne lahayn ra'iisul wasaarena lahayn sirdoona lahayn ciidana lahayn yacni waa isuma qado marka adiga ka abwaan ahaan seed u aragtaa yacni guddiga la magacaabay seed isleedahay yacni maxaa ka soo baxaya maxay soo wadaan ilan waan aragnaa muwaadin aan maxkamad la saarin wax dembiya lagu oogin baa la dhiibay ma waxay la iman doonaan sidii si la eg hebel Soomaali ma in Ethiopian buu ahaa iyo al-shabaab cilaaqaad lahaa iyo warkii beenta haba anigu horta markaan runta kuu sheegay cabdikariim markii gaalkacyo lagu qabtay ilaa markii xamar la keenayay dadka aaminsan in la dhiibayaan anu ku jiray in badan baa hadalkaa laga maqlay fikirkaan qabee weliba saxdaa wuxuu yahay waxaan ku xusuusinayaa baarlamanku markii qalbi dhagax la dhiibay go'aan sax mayna qaadanin waa adigii arkayey oo isku khilaafeen weliba intii rabtay in sidaa lagu daayo oo qalbi dhagax in la dhiibo uu ahaa ayaa badnayd kuwii ka aamusay iyo kuwii ku hadlay markaa isku darro shakhsiyaad yar ayaa quuri waayey bini'aadamnimadooda iyo soomaalinimadooda oo dhiidiyey waxaa ku xigtay qoladii wejiyo xuntaan u bixiyay anigoo wasiir la yidhahdaa la isugu yeedhay cabdikariim markii la dilay waxaa lagu xabaalqoday in la yidhaahdo dadkii reer ogaaleynaya ee dagaalamayay ee shacabka ah ee soomaalinimada u dhimanaya iska caabinaya cadowga in la yidhaahdo waa argagixiso bal aragtidoodaan ku tusayaa yerideeda argagixiso category wax la yidhahdaa lagu noqdaa sharci qodobo ayaa lagu noqdaa wax argagixisada la yidhaahdo layskama noqdo adduunku ma ogola in maaragta qof meel iska mari ama ummad la yidhahda argagixisa waa in shuruudo la qortay laga helo waxa weeye dadkani waa dad soomaaliya soomaalinimadooda u dirinaya gobonnimo raba gumaysi diidan waa waddo adduunka dhan uu soo maray adduunka dhan baa maray waddadan gobonnimo doonnimada la yidhaahdo waxaa kaloo xusid mudan oo ku xusuusinayaa anagoo toobigeeda weydiiso ku noqonaya ururka ONLF la yidhaahdo waddamo badani waxay qoreen oon anigana hadda raadin doonaa waddanka nayr wuxuu qoray inta dunida ka dagaalantay ururka ugu sharaf badnaa bay qoreen waxay dhahen waa ururka keliya ee la arkay gabdho dowladda ka cararay inay kufsato oo iyaga ku badbaadaya halka jabadaha kale inta laga soo cararay dowladda loo galo ayaa iyaga waxay dhahen waxaad arkaysaa gabdho intay dowladda ka carareen iyaga u gelaya oo iyaga ku badbaadaya waxay qoreen wax jabadoo dunida soo martay jabadda ugu sharafta badan inay tahay waan soo raadin buuggaa xarumaha laga heli jirayna waan aqaanaa marka waxa weeye kolkay leeyihiin ururkaas horta ururku waa dad shacaboo iska caabin wada maaha wax meel kale laga hubeeyey wax aragti kala xambaarsan maaha waa ummad aragtida dadkooda xambaarsan waa shacab isu tegay oo yidhi arrintan ma ogolaan karo
waxa kale oo xusid mudan oo doonayaan ku xusuusiyo hadalkayga u fiirso Kenya iyo Ethiopia waxay ka midaysan yihiin inay Soomaaliya wixii kaga yimaada iska kaashadaan waa sharci ay qorteen haddana dawladda Kenya markaad xadkooda soo gasho hubin la soo gasho lama ogola laakiin markaad xadkooda gudaha u soo gasho ee calanka ogaadeen inta taagato adoo saa u wato la lugayn kartaa maanta dhan cid kugu qabsan male cid ku oran karta calanka maxaad wadataa waxaad arkaysaa basas calanka ogaadeen ku buufsan yahay dad isliyo kaliya martay waxaad arkaysaa bas markaad soo gasho cajaladaha ka shidanayeen cajaladaha gobonimo doonku waxa kale oo xusid mudan oo ku sheegaya inaad ogeyd adigu saraakiil oo nala fadhiyo Ethiopia aftu watay Kenya waxay tiraahdaa soo celin weydaan qasab baa lagu soo celiyay yani waxay ilaashanayaan wadankooda in meel laga dhaco waxbay sumeynayaan oo nalef okay kuwii ay u dagaalamayeen ee xorriyadooda u dagaalamayeen ee iyaga madaxbannaanidooda u dagaalamayeen ee jiritaankooda u dagaalamayeen baa isu tagay markaas waxay dhaheen waa inaynu nidhaahno ururkaasi waa argagixiso okay lama oranin oo la isma weydiin kolka ugu horeysa inaga maxaa dhibayno waa horta ururkaas 30 sano ayay Soomaaliya meesha ka maqnay 30 sano shacabka Soomaaliyeed uu qaxayay hal ruux oo Soomaaliya dadkii dhex cararayay oo dhulkay joogto bay marayeen hal ruux oo dishay lama hayo $1 ruux oo Soomaaliya ka dhacday ururkoona 30 sano jirtay lama hayo war ururka noocaas ee Soomaalida ah ee calankeennii buluuga ahaa wata sidaynu ugu tilmaami karnaa wax dhibayno wahaynin ee adduunka dhan oo aqoonsaneen argagixiso sidaynu ku oran karnaa waa argagixiso lama isweydiisay lama yeelanin may faantay waxay marka Cabdikariim dilkiisa waxay ku xabaal qodeen inay yiraahdeen dadka reer ogaadeen waa argagixiso kadib waxyaabaha dhacay xadintan aan ku sheegi Kamaaluddin oo 7 jira oo agoona oo xamar ku dhashay ayaa iyo intiisii dayn waayay dad Soomaaliyeed baa idaacadaha inay marar badan wax ka weydiiyaan isku day nabad sugidda iyo ra'iisul wasaaruhu amar waxay ku siiyeen in wiilka la soo qabto gurigooda inta loo dhacay oo dad qaraabada iyo dad ehel iyo dad Soomaaliyeed xaafadda ay badbaadiyeen ayaa Kamaaluddin lala cararay oo wadanka loo hadda jooga waa 7 jir xamar ku dhashay ee qiyaasag halka la marayo fiir adigu inta marka baarlamaanku way ka warhayaan dawladdu way ka warhaysaa marka waxa weeye talaabooyinka ay qaadayaan hadalkayga u fiirso talaabooyinka ay qaadayaan iyo faralka ay qaadayaan dawladda Ethiopia oo la dagaalanta talaabo nooca ma qaadi karto abwaane hadda noqono su'aashi waxaan malaynayaa su'aal kale aad iga jawaabtay runtii aad u qiimo badan waan kugu soo noqonay sababta loogu argagixiso su'aashi guddiga loo saaray baarlamaanka aniga u soconaya guddigu waxa weeye hadduu odayga reerka ugu weysay tiqinfaanka ciyaalka yaryar raadka way daba hadaafaan hadduu madaxweynaha iyo prime ministerku khaainul wadaniin yihiin kuwa u shaqeeyaana inay daahir noqdaan ma dhici karto doofaar buu dhalaa dawgu nijaasi kama dhamaato waxa weeye waxan waxa isla qaban weeye iyaga baarlamaanka ee sheegaysa hadalkayga u fiirso kii wadani noqda sida maaragta odayaashii dhowrka ahaa waa la handadayaa waxa la leeyahay waa lagu khaarajin kii dhadhama raaca dhadhama yar baa la siinayaa kii kale dhanka afka loogu sheegay waxa la leeyahay hebel buu ahaa maxaa kaa galay adiga ayaa la odhanayaa waxa weeye dadkan kolka ugu horreysa waxaan ku xusuusinayaa baarlamanku lacag bay ku galaan baarlamannimada cod shacab kuma galaan iyo maaragtay si kale kuma yimaadiin iyo doorasho waxay baarlamanka ku galaan lacag ninka baarlamanka 4 sano xaq u leeyahay inuu joogo mushaharkiisu waxa laga yaabaa inuu yahay bishii 3,000 waxa laga yaabaa inuu baarlamaannimada ku helo $300,000 inuu ku bixiyo wuxuu rabaa yacni si kastaba ha u dhacday lacagtiisa inay soo noqoto waa 80% sida u fikiraan laakiin hadday wadaneedi meesha taalo oo خير بيرهن يمد حوية فرماتش يستيهم برنامج سيشر عيد xisaabtamayaan arrinta way ka wareegayaan ma ayna suurta gasheen ilaa baarlamaanku adduunka baarlamaanka waa awood badan marka waxa ka soo baxaya waxa weeye waxaan waxba ugu filayn ummadda Soomaaliyeed weeye waxa kaloon ku xusuusinayaa baarlamaanka su'aasha laga weydiisay wax ka soo baxaya oo sharci ah
ومدى حتى قلب دغحوا تغي عيد سو علين كرتا ما جرتو لكن الشرعيه ku dhaqmaan oo sharciga ku dagaalamaan jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyaga baarlamaanka laftooda dano tahay haday sharciga waafaqi waayaan geelaseen cadiisi durdursay arinkiisa maxaad mooday baray minister-ka iyo madaxweynuhu haday sharciga ku dhaqmi waayaan baarlamaanka iyo wasiirada iyo maaragtay dadka kale ee shaqaalaha dawladda iyaguna sharci ma tixgelinayaan adigi markaad jabisay anigoo wax cilinaya ma jiro waxaan ku oran karaaba adigaaba sharciga ku tuntay intaan waxa doona ku sameeyay marka iyagay dan u tahay inay sharci ku dhamaan hadda maamul goboleedyada nimanka hadda shirayay sharciga lagu xakameyn karaa muxuu yahay madaxdii waddanka ugu sarreysay baa 18 jeer sharcigii jabisay diinta islaamka ay ku tunteen madax bannaanida ummadda ay ku tunteen sharaftii ummadda ay ku tunteen dastuurkii ummadda ay ku tunteen bani'aadamnimada ay ku tunteen ninka intaasoo dambi galay siduu isagu wax ku xakameyn lahaa baa isweydiin leh waxaan ku xusuusinayaa mudane ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo waa laba nin oo jinsiyad waddan kale ay haystaan mid walba waxaa lagu siiyey sharciga uu ku helay sida Soomaalida xilliga u badnayd ay iyagu wadamada tageen iyagoo dawlad eriyaynin hadda waddankana joogo boqolaal ruux wax ku andacootay beel Soomaaliya soo riday beel Soomaaliya habar giir baa soo riday sidaas bani'aadamnimada inta loo tixgeliyaa sharcigiisa lagu siinayay Cabdikariimna waxaa loo gacan geliyay isagoo muslina oo Soomaaliya oo magara ayaa waxa loo gacan geliyay ninaan diin la wadaagin oo jinsiyad la wadaagin oo wax la wadaagaa jirin dagaal mooye Soomaaliya iyo Itoobiya abadankood dagaal baa ka soo dhacayn jiray haddana way dagaalami doonaan waxa kaloo xusud mudan ma dhici kartaa shakhsi Itoobiyaan inay Soomaaliya intay dalbata loo soo dhiibo qiyaasag erayga u fiirso innagu qalbi dhagax baan u dhiibnay 7 sano dagaalamayay haliyay qarana marka Itoobiya shakhsi Itoobiya dambi intuu ka galo Soomaaliya may noo soo dhiibi kartaa su'aasha in la isweydiiyo mudan waa ma dhici karto ninkan hadda Soomaaliya jooga ee aragtay ee madaxweynaha u ah xamar 20,000 oo ruux buu ku dilay inta waxaad weyd ka sameeyay dambiila kama aha saaxiibay la yihiin waa duul foorara duul kani allah ha xifdiyeesin baa wuxuu yiri banaadamka kalena aqliga ka horeeyo oo haga Soomaalidana aqligu gadaal buu ka jiraa kolkii dawga ka dhacaan buu aqligu soo kortaagaan waxa weeye Soomaalida aqligu gadaal buu ka jiraa banaadamka kalena aqliga ka horeeyo marka waxa weeye wax ka soo baxaya haba yaraatee oo go'aankaas oo dambiilayaashii lagu qaadayo ama lagu maxkamadaynayo ama la oranayo maadaama arrintan samaysaan xil nooma haynaysiin inay yiraahdeen arrinta ku soo heshiiyaan absolutely habeenkii xalaha taga way ma dhici karto mana dhici doonto waliba waxaan kugu darayaa oo xoga oo dhaban u hayay ninka Itoobiya rabtay inuu qalbi dhagax qura ahayn tira aad u badan oo Soomaaliyeed inay ahayd laakiin maxaa hakiyay iyagu way ka ogolaadeen kuwani waxaa hakiyay kacdoonkii ummadda Soomaaliyeed ee dhawaaqii baa hakiyay iyo qayladii ayay hakad geliyeen waxaan ku xusuusinayaa ninka Prime Minister-ka mar University TV University jaamacadda Real Madrid ku taala wax laga weydiiyay oo gabadha Amerikaani weydiisay ku tiri shakhsi muwaadin oo jabada kamid ah Itoobiya u dhiibtay wuxuu ugu jawaabay uguma dambayn doonay kuwa badan baan u dhiibi doonaa xogta anigu hore baan u hayay kii ugu dambeeyay ma aha buu waxa kale oo xusuusinayaa mudan adigoo aan ka bixin topic-aaga iyo su'aalahaagii waxa waddanka xukuma nin sirdoon ah bosul Itoobiya u soo dirsatay Soomaali baa loo diraa Soomaaliga way aaminayaan wax kastuu yahay waa in adeerka iyo waa reebel bay oranayaan sidoo wax u sheegayeen sidoo wax wada la qaadanayaan xilligii ninkii Richard Coffey loo oran jiray daraawiishta ay dishay Soomaaliland uu ka howlgalayay ayaa tala la siiyay waxa lagu yiri Soomaalida looma bareero iyaga la isu diraa laakiin inta adigu la kulanto Nigeria iyo South Africa wadamo badan buu qabtay waxa la yiri Soomaalida sida Afrikaankii kale ugu talagelin iyaga isu dir maalinka ay Soomaalida kulmeen wuu dhintay laakiin waxa la yiri iyaga la isu diraa iyaga isu dir waddanka waxa Prime Minister-ka madaxweynaha ka ninka safaaradda Itoobiya uu jooga ayaa Prime Minister-na ka madaxweynaha ka baarlamaanka ka hadalkeega u fiirso
aad baad u mahadsan tahay runtii waqtigii waxaa weeye gebagabadii iyo gunaanadkii ayaynu soo gaarnay barnaamijkeena maanta ee Elias Live annagoo rajaynayna mustaqbalkeena inaan isugu nimaadno kulamo badan go'aamadan baarlamaanku markay soo baxaana aan mar labaad dib u taxliilin doono jidka ay Soomaaliya in maaragtay wax institution oo nool inuu jirin golihii fulinta ee ra'iisul wasaarihi madaxweynihii maxkamadii labadaas hore u soo ceeboobeen haddana baarlamaankii iyo sanadkiiba ay dul saaran tahay in maaragtay Soomaaliya sharci uun ka jiro iyo in kala ogaan doonaa haddii baarlamaanku ay maraan wadadii farmaajo iyo khayre waxay la micno tahay Soomaaliya gumaysi bay ku jiraan tigreegana gacanta ku haya ummadda Soomaaliyeedna waa loo yaabaa waa loo saar insha Allah ilaysna waan iska wareysan doonaa arrimahaas iyo marar badan guntiga gabagabadii baan soo gaarnay maxaad ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda xornimo doonka ee Soomaalida ogaadeenaya iyo maxaa kale oo fariinood hawada u marinaysaa baarlamaanka go'aanka soo wada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku soo dhawow mudan horta dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel kasta oo ay joogto waan salaamayaa shakhsiyadan si gaar ah u salaamayaana way jiraan berigii dhaweyd ay dhacday arrintii la yaabka lahayd ummadda Soomaaliyeed qaar way wadaneed hadleen qaarna way caqli hadleen qaarna way Soomaali hadleen qaarna way islaamnimo hadleen qaarna way doqonnimo hadleen qaarna way gaalnimo hadleen qisadii Cabdikariim waxay Soomaalidu ku hadashay markaan soo ururiyay intaasaan u qaybiyay waxaan ku qaar way garasho hadleen qaarna way gaalnimo hadleen qaarna way caqli hadleen qaarna way islaamnimo hadleen qaarna way doqonnimo hadleen qaarna way cadaawad hadleen waxaan marka si gaar ah u salaamayaa dadkii Soomaaliyeed ee wadaninimada hadlay waxaa kamid ah dadkan salaanta ugu horeysiinayo ninka loo yaqaan Cabdikariim ninka loo yaqaan maaragtay Cabdimaalik Sheekh Muuse wariyaal Ingiriiska jooga sida ayaan leh iyo maaragtay Jamaal iyo maaragtay gabadha la yiraahdo Amina Muuse Weheliye dad fara badan oo Soomaaliyeed baan salaamayaa kuwaanu sharaf iyo karaamo moodayno culimo ah ama siyaasiyiin ahna waxaan leenahay dadka idin qaaday dhulka Allah idin dhigo dhulka tagteen waxaan iyaduna kale oo baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa caruurtiina iyo dalkiina iyo diintiina iyo aakhiradiina u daneeya waxaad ku dhaarateen magac Ilaahay idinkoo kitaabka samaawiga ee kitaabka Ilaahay gacanta saaray la idin saaray ayaa waxaad ku dhaarateen wajiga naga iyo wajiga Ilaahay hortiisa waxaad ku dhaarateen inaad dalka iyo diinta daacad u noqonaysiin baad ku dhaarateen waxaan idin sheegayaa inuusan dhuunin raacnimo meel ay idin geynaysa aysan jirin waxaa hiiro noqon doona sharafta iyo biladu korkiisa ku hadhi doontaa qofka xaqa ku dagaalama laakiin waxaan xaqiijinayaa qofka cadawga u shaqeeya ama lacag ku shaqeeya inuusan sharaf yeelan doonin baan xaqiijinayaa waxaa la siiyeyna inaysan meel gaadhsiinaynin baan iyadana u sheegayaa waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka Soomaaliya hadda oo idin hortaaliye kadibba war wadanka iyo dalka iyo dadka difaaco baarlamaanka adduunka oo kale iska dhigo xaqa iyo gobonimada u dagaalama oo xaqa dadka waafajiya oo ummadda Soomaaliyeed waxaad ka ballan qaadeen ka rumeeyaan leeyahay waxaan ku leeyahay horta farmaajo waxaan ku leeyahay nin Soomaaliyeed baa gabiyay oo wuxuu yidhi haddaad nuur cuburiyo og tahay caawa waxa jooga ciidda la soo kici lahayd cadho daraadeed buur haddaad nuur cuburiyo og tahay caawa waxa jooga nuur cuburiyo nin dhintay waa xilli hore dhintay ciidda la soo kici lahayd cadho daraadeed buur Allah u naxariistay siyaad barcaaw haddii lagu oran lahaa nin adiga familigaaga kursiga Soomaaliya ku fadhiisto saraakiisha Itoobiya u dhiibay siyaad bar haddii la oran lahaa waxaan malayn qabrigu inuu soo foodci lahaa baan u malayn waxaan leeyahay farmaajo islaan nin libaax oo berigii hore raggii raganimada uu qabay ayaa ninkii ka dhintay marka islaantii ku ileen ardaan niijiyo doc ka yeero ninkii walaala yihiin oo malaha la islaantay raganimada walaalka waxbuu ka sitaa ayaa gabadhii loo meheriyay wixii dumaasha la oran jiray berigii hore jiray markii gabadhii loo meheriyay ninkin waa eber gabadhina libaax bay taqiinay ayaa isagoo nin liitaa wadana gabadhii maalin maalmaha kamid u gacan qaaday gabadhii way ooyday waxay tiri oo inteeda waxay tiri meel aad ka tagay dacwo saydhuuqday meel aad ka tagay dacwo saydhuuqday waxaan leeyahay farmaajo
wax ceeb oo geed dabadii kugu dhiman ma jirto wax ku mayri karaana ma jiro adeerow gacaliyow taageeradaadina waanu ka tooba keennay dembiilaa tahay adeer meesha iska tag baan ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed hor joogin Prime Ministerka waxaa la shimbir maalin bay dab qaadaa maalintii minkeedii minana la gubtay Prime Minister hadalkaan yarana waxaan ma in laga quruxsan yahay Prime Ministerku wuxuu ku kacay wax Prime Minister Soomaaliya kamid ah adduunyada soo maray waxaan lagu arag buu sameeyay marka anigu waxaan ku tilmaamo haba yaraatay ma garanay waa la wala nothing way waa ever aad iyo aad bay ilays kaaga maadinaysaa waqtiga qaaligeedna siisay iyo sida wanaagsan maaragtay fikirkaaga iyo su'aalihi aan ku weydiinaa nagu jawaabtay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan marar badan aan kulanno arrimaha geeska anagoo rajaynayna in Ilaahay Cabdikariin Sheekh Muuse uu xabsi ka soo daayo kuwa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee dalkoodii khiyaamay qaanuunkii dalka khiyaamay dadkana khiyaamayna waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu maaragtay xaqa tusiyo hadduu tusin waayo in Ilaahay ummadda ka soo qabto iyadana rajaynayna ugu dambeyn waxaan ku siinayaa hadalkii ugu dambeeyay barnaamijkeena guntiisa gabagabadiisa ku soo dhawow waan dhawahay mudane qolka ugu horeysa dabayaaqada halkan waxaan ka salaamayaa wiilan uu dhalo amiir dhadaan aad u jecelahay hooyadii baan salaamayaa iyo heladiisa iyo cid kasta oo maaragtay eeloa ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ninkii Cabdullaahi Macallin oran jiray qaryaanka Cabdullaahi Macallin Doodaan ayaa waxa jirta gabayo uu ka hor dhacay oo xilliga tusaalayaasha ay wuxuu bixinayay meena jirin ummadda Soomaaliyeed bariga dad isku filan oo cid walba iska filan bay ahaayeen gabayo la oran karo way ka hor dhaceen ayaa maanta jooga gabay urahaba waxa ku jirta maska iligta kugu tiifaya ee ka turqani dhiiga tashaqmi cida ka tiri wala kaaga turi maayo tumbuqiyo niman kula jecleen tabar iyo niman kula jecleen toori aad tumato tumbuqiyo wala kuma yiraato la yaaliibso tabulaasahaga u burtiyo tuugan inuu jeedo hurdu kugu talaaleey wala toos ku oran maayo tukashada ibliis ka duway iyo tooba keenimada ma taqaanid mooyee ilaa karma taban taabso waxaan u sheegayaa Ethiopia adeer waa maskii ku tiifay ee dhiiga ka muday waxaan guul darro ah inuu idiin soo wadaa ma jiro Soomaaliya ilaa qofka lacagta Ethiopia lagu arkay jeebkiisa maxkamad la geeyo oo la dilo qof u shaqeeyo oo fikradeeda xambaarsan iska daayay wallaahi inuu ummadda Soomaaliyeed badbaadaynin Ethiopia gobolka Soomaali galbeed ay haysato markii Djibouti iyo dhulkii xorriyadda qaatay Soomaaliya loo oran jiray la isku daro waa 620 kilomitir Soomaali galbeedna waa 320 kilomitir dhulkii xorriyadda qaatay macal Djibouti marka la isku daro laba meelood loo kala gooyay ayay meel leegtaa waana dhulka ugu khayraadka badan 8 webi bay leedahay dadka Soomaalida ma yaqaaniin wax kasta oo bini'aadam u baahan yahay baa laga helaa dhulka noocaas isagoo maqan yahay oo Ethiopia haysato oo waliba dadkii lahaa ay dagaalamayaan inuu dadka xamar iyo garow iyo Hargeysa joogay dadka Soomaalida dagaalamaya ay handadaan ama ay dilaan waa arrin la yaab leh waxa kale oo xusuusinayaa mudane intii halganku ka socday gobolka Soomaali galbeed dadkaas ay dagaalamayeen waxaan hayaa oo soo bandhigi karaa 720 ruux oo Soomaalidu ay dhiibtay dadka Soomaaliyeed Djibouti laga soo bilaabo ilaa Kismaayo ay u dambeysay waxaa kale oo xusin mudan adduunka inta leeg dunida inta leeg shakhsi oo nalafo oo adduunka inta leeg uu waxyeelay lama hayo waa nasiib darro ee siyaasad bal fiirada dunida inta leeg Eritrea hadda tacaawa ninkii oo nalafo aqoonsan hadii doonaan baabuurta research screen baa lagu qaadaya Suudaan oo kale arday gaar ah oo dadka reer wadaadin ay qaabilaan oo tiin barada jabadu hadday oo nalafo soo dhufato iskuulada jaamacadda free lagu siiyaa jira Kenya oo kale يعني واحد يدخل هنا ويقول لي حرمي كله نيجي تبيه وش كيان فرت يكون في قيام سردون كنا جرعان بالغيابة وضمن يوروب تن أنا قلنا هذا الترم القوة كله قفكي أين الحفيز كأنا لفاينا ده وركان لقى صوصي من شرعي سلام سيريو لما قابليه وحنا نصيب درا ومضي الصوماليين إلى هالكاجاد هساعته قوسم منه نلاش لجماعة قوسته وجبنينا لجماعة قوسته إلى واحد كرتين هذول الصوماليين هذول فربضون وجبنينا فهمي كرا أي كسر بحامي كتقلصان كوا عدو وشقية أكلون مش يا دردارك يا ودن بيا كوا برا إسكوش يا هو كان أنا هلا يندق هي قلبك النوط طايرين هي وايد بيان له ما ركتي
raalli kaa in la dilo nin la odhan jiray indhagaale oo nin abwaanaaba Ethiopia oo la aan jiray aad buu nabcaa maalin maalmaha kamid ah ilaa Ethiopia waxay damacday ninkan colka la ay ka fadhiisan lahayd dhibka miidhana inay maaragtay iska jeeyaan oo wax u sheegaan marka waxa la yiri Ethiopia oo indhagaale raadinaysa maanta magaalada joogto nin baa u yimid wuxuu ku indhagaalo alaabta Ethiopia deyn weeyday Ethiopia ku raadin yaay ku yiri ninkii waa lagu diiday maanta meel carar buu yiri marka indhagaale gabay buu tiriyay nabigii yaxaasku laqay ilaan dadka Soomaaliyeed iyo Soomaalidu waxba kama qarsoon dad culimaana waa aare wuxuu yiri nabi Yuunus xuudkii dabnaha loogu dalaqsiyay ilaahan ku dilin ee ka diray aayar dabadiisa badda aan dabaa lagu maray duuta uga yeelay goolda caaro dundin darafti dhaarsiiyay wala saa ilaahigi saa khalqiya daa'ira sugay ninka aniga ee daayirina u darajadaya ogu kuwa baarlamaanka isku sheega ama Soomaaliya anaga noo dayrinaya ee cadawgaas inuu nagu xeernaado oo halkaas Soomaaliya ka maqnaan ku go'doonsanana aaminsan waxa laga yaabaa iyagoo gacmaha ku rutaayo baahan oo qaawan inay noo yimaadeen maalin maalmaha kamid ah insha Allah hadii caafimaadna waa isku ognahay badan annaguna waanu raad gureynaa shakhsi kasta oo gobonimada Soomaaliya ama shacabka Soomaali galbeed ama gobolka Ogaadeen loo yaqaan ka hor yimaada waan diiwaan gelinaa waan qoraa qaamuusyan ka qoraa hadalkooda waan qoraa talaabada qaadaan waan qoraa shakhsiga dilaan waan qoraa wax naga seegan haba yaraatay ma jirto maalin maalmaha kamidna maxkamad baan ku keeni doonaa iskuuladana waa lagu dhigi doonaa taariikh xumadooda iyo wax ka shaqeynayaan habeen wanaagsan ee wariye aad iyo aad baan ku salaamayaa داوديش قيمة يقايا القطب كين اللي حاذي مانتا برنامج كقوبنا وحنكو هنا جالية السعودية العربية شركة سوي كوجه الليين حالة وقادينية حالة إثيوبيا أي مرة مانتا هي حالة جالية السعودية العربية شركة سوي كسوي قالين مسؤولين سرسرة وكم دها عبد الله العراقي أي وحول عيسدان إيه نلداودا فرج خير طبعا الله موفق نوحي الله موفق إلهي والله قادر الرحمن محافظتي النور سودا إله محافظتي النور سودا أنت بقى الله موعاف إله ملك النور هجاجي إله شعب خير إصلاح إله وطن خير إصلاح رب سبحانه وتعالى وحن خبر يا خير أمان إننا نسير شر أمان تنين نجح إجابة وإننا وافقوا كل لنا رأي من نقرنه وأنا هتنزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجل يا حسنات على سوق الكريم يا عبد الله الله يسلم بعض الناس أنا أقول لكم الله يقول وحوار واحد من زعتات منه دوس يلا على أنت تدرس شوية صواب حرولات هذه قالوا barnaamijka qubanaha ilaysa maanta waxaan ka marnay kaalintii suugaanta barnaamijkeena maanta suugaanta aan ku hayno waxa kamid ah hees ay wadajir u qaadayaan koox Oromo iyo Soomaaliya taasoo ku cabirayaan in shacabka Oromiya iyo shacabka Soomaalida ay yihiin laba shacab oo walaala ah una baaqayaan inayna marna aqbalin in dhexdooda la kala qaybiyo heesta iyada iyo maaragtay hees wadani ah oo lagu soo bandhigay bandhig faneedkii jaaliyadda Soomaalida ogaadeen in Norway ay qabatay heestaas oo ka dhex muuqdo abwaan Bashiir Dhanaan oo maaragtay lagu leeyahay midhaheedu ay kamid yihiin jaahil mooye ma jiro muslim jeesto jihaadka ka hara marka labada heesood ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena qubanaha maanta waxaa barnaamijkeedii soo jeedinay aniga waa Khalifa Abdi Cali tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somali wa
jirrate addanu kokkootuuf mala nu baafate lakki gargar hin baanu lakki Somali Oromo wal tahi diina firraa dhorki lakki sinu daayin kenna gakkige dadistaaru noolahayo yeqowadagana waanahayo ismataarabidkeene Sima dubedio shitek kirkila yuniyo dulmida tibanai Oromo Somalin kulluma dentenyas takuma tulwalin kamna halkuma wadabun kamno bunkuma Oromo Somalin kulluma dentenyas takuma gargar himbanu lakki Yeah.